dowladda qaarkood leedahay oo ayaga ma dhihi karaan ummaddan oo dooratay qofkii doortay qof kale yaa og nidaamka dowladnimada qofka warqadka laakiin dhibaatada jirta way waashay xasan kii inta la shaqeeyo Soomaali waa laakiin anaga gobolka Shabeellaha Hoose ayaan ku soo jeedaa waxaan u dhashay digil iyo mirfle gobolka Shabeellaha Hoose baagii boqola qadiyadeedu way weyn tahay xamarna qayb ayaan ka leeyahay faraheed ka baxyaa la dhihi karaa markaad fiirisid may waa la kaasay dhanka annagaa geysanayna kama dacweysi waa soo waana dacweysanayna taankaygaa shaqaynaya aadana wadaystaa ama ha noqdo madaxweyne بسم الله وكفى سلام الله عليكم مدن يال iyo marweyn dacalada adduunka meel walba aad joogtaan waxaad inagala socotaan warbaahinta ku bahawday Southern Media Cooperation oo afka Soomaaliga noqonaysa warbaahinta ku bahawday koonfurta Soomaaliya waxaanu ku sugannahay stuudiyaha labaad ee Southern Media Cooperation dalka Netherlands magaalada The Hague ama Den Haag sidaas daraadeed waxaanu marti ku nahay hoyga Kaamila Cabduqaadir Cadow oo iyadu ah doctoreeso halgamaa koonfurta Soomaaliyeed isla markaasna ka tirsanaan jirtay ururadii u soo halgamay dalkan xoreyntiisii haatanna ma arkayse u dhaqaaqda xuquuqda haweenka iyo insaaniyadda sidaas daraadeed marti fara badan ayaa caawa ku sugan stuudiyahan oo wajiyadooda aad arkaysaan quruxda badan isla markaasna magacaantoodu qof walba aad ka maqli doontaan afka uu leeyahay caaw waxaanu ka hadli doonnaa masiirka ummadda koonfurta Soomaaliyeed ee in ka badan 60 sanadood dhibaato ku soo jiray nidaamka dawliga lagu dhibaataynayay sidaas daraadeed qof walba aaraadiisa ayuu ka dhiiban doonaa dooda anigaasi idin la hadlaya macalinka lugeeya ama Adam Increase ayaa qaybinaya waxaana farsamada gacanta inoogu haya ma arkayse wariyaasha kala duwan ee ugu horeeyo wariye Maxamed Ibrahim Wadani oo taqaanaan sidoo kale waxa ma arkayse jooga oo hawsha gacanta ku haya oo doodana qayb ka ah wariye Xasanos oo taqaanaan isaguna ka tirsan wariyaasha Southern Media Cooperation isla markaasna wariyaasha groupka Southern Media Cooperation oo wada shaqeeyana Faad Maxamed Abuukar oo loo yaqaan 10 oo isagu xafladii Sweden ku maqnaa iyo teamkan oo loo soo diray Netherlands Holland xafladii caawa gudoomiye Axmed Yariiso uu abaabulka uu lahaa ee ka dhacday Den Haag sidaas daraadeed waxaan jecelahay in aan dooda ku furfuranno marka ugu horeysa ducada marka xigtana waxaan jecelahay inaan qaybino faragelinta koonfurta Soomaaliya doorashada soo madlan Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur warqada laga soo saaray ee diidmada ah in ma arkayse uusan ka qayb gali karin iyo arrimahaasi oo dhan ayaa la falanqeynaya sidaas daraadeed ay shakhsiya ma jirto laakiin waxa laga doodaya waxay tahay ummadan intaasoo sana dhibanayd sidee loo samata bixin karaa sideena loogu heli karaa hoggaan iyo maamul cadaalad ku dhisan oo tii rabbiga uu sheegay sidaas daraadeed waxaa fadhida sida aad aragtaan Doctoresa Kaamila Cabduqaadir Cadow oo gacanteedii midig bidix fadhida calanka buluuga Soomaaliyeed iyo calankii koonfurta Soomaaliyeed ma arkayse isku aadisay waxaa fadhida Amaal gabadhaasi oo iyaduna ma arkayse kamid ah dooda caawa qayb Abukaate Axmed Day ayaa fadhiya oo siyaasadda Soomaaliya in badan aad uga warqaba waxaa fadhiya Dr. Cali Cabdi Baab oo ah founderska ama dadkii ugu horeeyay ee South West anigu South Soomaaliya oo qaanaa maamulkaasi dadkii soo helay isla markaana wakiilka dawladda koonfurta Soomaaliyeed ee UK isla markaana ka soo baxay ama ka soo boqolay boqortooyada Ingiriiska London sidoo kale waxaa fadhiya wasiir Ataka oo ah wasiir ku xigeenkii isboortiga dawladda koonfurta Soomaaliyeed ee ma arkayse haatan ku sugan stuudiyaha waxaa jooga macallin Mustafa oo isagu kamid ah dadka wax garadka ah isla markaana xambaarsan cilmiga ugu sareeya diinta Islaamka waxaa fadhiya Samatar oo aan rajay Cabdicasiis ayaan dhihi lahaa oo kamid ah dhalinyarada ma arkayse caawa doodan soo xaadirtay doonayana in fikradoodu ay dhiitaan sidoo kale Samatar oo ah caaqil oo Doy Foundation dadka abaabulay ah
guddoomiyihii ugu sarreeyey ayaa fadhiya haddee isagaa isa sheegi doona cabdullaahi sidoo kale xasanos ayaa ma arkaysa fadhiya kaameramanada ma arkaysa gadaal fadhiya waad arki doontaan dadka facebooka inagala socda qaybaha youtube-ka iyo dhammaan southern media corporation caawa doodda way ballaaran tahay waxaan rabaa inaan ku hormaro doctor cali cabdibaab waxaa tahay ma arkayse mas-uulkii dowladda koonfurta soomaaliyeed haatan dowladda sii liicaysa adiga iyo ataaka marka ugu horreysa ingiriiskaa ka soo baxday maanta ku soo dhawow southern media corporation doodan ee agaasintay marka ugu horreysa qof walba iyadoo aan rabno inaan barno dadweynaha hawada inaga daawanaya بسم الله الحمد لله وبه نستعين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم runtaa waaye wariyaha lugeeya ee jugta culus waxaan ka imid london u k waxaana u imid yani martiqaad ay martiqaadeen walaalahay jaaliyadda netherland xafladda taageerada darteed ayaan u imid ee lagu taageerayo musharaxa aqlabiyadda shacabka koonfurta heesta sheekh mukhtaar ronow ayaan u imid aad baad u mahadsantahay wasiir ataaka waxaad qayb ka tahay maamulka haatan la doonaya isbeddel in lagu sameeyo wasiir baad tahay xasaanad baad xambaarsan tahay ku soo dhowow doodan caawa oo la qalayo nidaamka soomaaliya iyo koonfurta soomaaliya gormay guul gaarayaan dadka noocaasa waa kugu soo noqon doonaa wasiir ataaka dad badan ayaa fadhiya macalin mustafa ayaa fadhiya macalin mustafa ku soo dhowow southern media corporation doodan culus ee caawa ay qaybanayso إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أرتد دودن إذا فيلته ولا أنت ككويني أو أنت نسك ككويني ما يواها ودن كنسي كهرمر سنة لهايني لانكي ودن كاس هرمر جيسي لهاي عاوذي أنت كوينون ما يواها لانكاسنا لانكان وما أرجنا أن حتى أنت نسك كويني مختار روبو una dalkaanu iyo dadkaanu iyo diintaanu lankaas horumar lankii geysi lahayo saasa intan kooyaan horta waa kugu soo noqon doonaa cabdicasiisow ku soo dhowow southern media corporation asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu meel raayin sheegada magaaga cabdicasiis alaare dhalinyarada belgium koytiya ka mid ahaa yacni sababta aanan kooyna waybuwa yacni sidii una meel raay taageer aan ka muuji lahayni sheekh mukhtaar robow abu mansuur meel raayin sheeg maadaama u seeya musharax aan shacbiyada badan marka saas dartiya aan kooyni iyadana siin salaamay gudoomiyaha doy foundation master samatar ku soo dhowow southern media corporation doodan caawa masiirka koonfurta soomaaliyeed looga tashanayo walaal aada u mahadsan tahay waa dhowahay kulay saad ula socotiin meeshan waxaa isugu nimid taageerada aan u hayno walaalkiin sheekh mukhtaar robow cali si aan fariin ugu dirno dowladda soomaaliya oo mar dhoweed warqad wasaaradda amniga ka soo baxday lagu sheegay in oo musharax noqon karin oo loogu diidayay marka taas ayaa damiirkeena kicisay annagoo ah dad reer koonfur galbeed oona aada u taageersan kana midaysan taageerada aan u hayno walaalkeen sheekh mukhtaar robow waa kugu soo noqon doonaa doodda waan qaybinayaa maadaama anigu aan ahay kii qaybinaya inaan socdaan ku qasbanahay daawadayaal ku soo dhowow southern media corporation maxamed cabdiraxmaanow waa dhowahay ulajeedada imaashahayaga iyo joogitaankayaga wuxuu yahay shacabku rabitaanku shacabku ha shaqeeyo dowladdu waxaan leenahay we are not lab annagu ma nihiin dadka oo laabka sida laabka wax loogu baroobeeyo dowladdu awooddeedu iyo nidaam kastoo yimaado awoodde annagu barooba ma galno annagu shacabkayagu meeshuu taageero ama mukhtaar ha taageero ama shakhsi kale ha taageero shacabka rabitaankiisu dowladdu waa inay u hogaansanaataa haddaysan u hogaansanaanaynin shacabku ha sheegto dowladdu shacabku kama mid ahaan ha dhahdo dowladda marka annagu waxaan rabnaa inaan dhahno taageeradu shacabku baa qasab ah dowladdu inay taageerto dowladdu waxay dowlad ku tahay shacabku meeshuu rab haddaysan ogoleen annaguna dowladdu ma rabno
aad ayaad u mahadsan tahay gabdhaha ayaan ku noqonayaa laakiin waxaan jecelahay abukaate axmeddey inaan ku soo dhoweeyo microfonka abukaate axmeddey ku soo dhowow Southern Media Corporation doodii ayaan hadda bilaabi doonaa soo dhoweyn weeye السلام عليكم ورحمة الله وبركاته آدي أدا أمة ستين أنا وعن كيماني دقم الله إندوبن هدنا دن هاجان جوجنا قاس عن دلفتي وعن أولي جديد أن إيمان تاعي أبو مختار روبو إن تاجر أن كم موجينه إسلام مركين إذن كنا وإذن كم سنتين دودان هذا نوفرتين أو مردوك بلابد دونتنا آدي أدا أمة سنتين waxaan ku noqonayaa marka gabdhaha macnaheedu maxaa ugu bilaabi weyday su'aalaha ka imaan karta laakiin macnaheedu ma ahan in la yasayo macnaheedu ma ahan balse laakiin sida diinteena ay ogoshahay iyaguna raalli bay ka yihiin in ma arkaysa marka ugu horeysa ma arkaysa dumarka iyo raggu ma arkaysa ay tallaabo horeeyaan waana wax ilaahay soo dejiyay waxaan jecelahay kaamila inaan ku bilaabo kaamila ku soo dhawow Southern Media Corporation caawa fagaaraha dooda السلام عليكم ورحمة الله وبركاته anigoo ah kaamil cabdiqaadir cadow horta waxaan hoganahay u jeedin Soomaaliya kanaana lagu dhalay kanaana aaminsanahay Soomaali hadda inta oo koonfurta waxa ka muhiimsan Soomaali weyn inaan ayaa muhiimada ah waxaan rabnaa jaal madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ulul amraha maanta haysta waxaan ka rabnaa in qof kale aniga waxaan ku hadlayaa xuquuqda aadamaha ayaan madax ka ahay oo hay'ad Children Mother Education Development Organization waxaan ka rabnaa in ummadaasi adigaba maalinta lagu dooranayo shacab baa ku jeclaaday oona haddana oona ku taageersanahay nabad iyo nolol dawladda aadan u taageersanahay annaga dad dawlad jecel digil iyo mirafle dad dawlad jecel oo dawladda iyo qabiilna ma garanayno annaga qabiil iyo waxaas shaqo kuma lihin dadkaan isbarano ama nala dega walaalaheena oo kaleeta walaalaheena waaye dad badan ayaa nala degan Soomaali qabiil ma garanayno annaga qabiilna ma nala soo korinin dad wax soo baranaya nahay kan nala ag fadhiyo kursiga nala fadhiya ayaa kaasa aabaheen iyo hooyadeena dhalay waxaan rabnaa madaxweyneyaalka oo ku codsanaynaa insha Allah biidnillaahi kariim aniga dad marti ah ayaa ii imaadeen arrintaana ii sheegteen marka waa ka aqbalay walaalayga ah meel dheer ka imaadeen Switzerland ayaa laga imaaday dadkan dhan marka waxaan dhahay in gurigeyga maanta waxaan ugu soo dhaweeyay si oo tartiib ah oo qofna loo gafeynin qof bini aadan ah in xisaabta aakhirey jirtaa horta kii ulul amra ah oo ummadaas oo ka xadgudba annaga xisaabnaga ilaaha la xisaabtami doona raas kamboni raas caseer qofkii dhibaato u geysta ummadaas asaga madax ilaahay uga dhigay annaga tiina waxa ka weyn tii ilaahay asaga kitaabka u dhaartay kitaabka ilaahay u maray annaga waxaan tan adduun leh waa wax qiimo kuma fadhido in alla intii madaxda oo soo martay ilaahay ajar iyo xasanaad Allah ka siiyo ayagana dhibay qabaan ilaahay garabkooda Allah gala waa ugu duceynaynaa annagana waxaan rabnaa in ummadaas la badbaadiyo qof allaala qofkii hebel waaye ma dhahayno qof allaala haddii shariifka ilaahay ka dhiga haddii oo koo kale ilaahay ka dhiga ummadaas ayaan rabnaa in la badbaadiyo waxay rabaan hadday shariifka rabaan hadday inta hadda soo sharaxday mid ka mid ah rabaan in la garab galo oo rabitaankoodii ayagoo dhibaato ku dhacay waa kugu soo noqon doonaa insha Allah Amaal gabar waxaa tahay u dhalatay Soomaaliya gaar ahaan koonfurta Soomaaliya saacadaasi waa habeen waxa ku soo socodsiiyay ee ku gubay ayaanu ka wareysan doonaa marka ugu horeysa ku soo dhaw Southern Media Corporation السلام عليكم ورحمة الله وبركاته magacaygu waa Amaal Abukaato Axmed Ibraahim Amaal Axmed Ibraahim aan dhaho Abukaato Axmed Ibraahim la dhahayo oo halgama aha ay dhalay oo ahaan jiray gudoomiyihii sharci dejinta baarlamaanka ayaan aabahayga ah taaniyan waxaan halkaan isugu nimid in aan ka qayb galno farxadan sharaftan aan u muujino aan ku doorano walaalkay madaxweynaheena mustaqbalka Roobo Abu Mansuur aad iyo aad waanu ku faraxsanahay waanu soo dhaweynaynaa inuu noo qabto hoggaanka dalka koonfur galbeed qaybta
okay dadkoo dhan waa ay wada weeyiin marka waxaan jecelahay waqtiga inaan beeqaamino su'aalaha waxaan ka dhigaynaa counter attack dhag su'aal jawaab 2 daqiiqo qof walba waxaan ku bilaabayaa abukaate axmedey 15 musharax ayaa ma arkayse ka jira koonfurta Soomaaliya Mukhtaar Robow kaliya maxaa galay oo loo beegsaday su'aashaasaan rabaa inay iga jawaabtid maxaa Mukhtaar Robow kaliya dawladda federaalka ay u doonaysaa warqad ay uga soo saartay waxaan rabaa si macnaheedu ishtriiq fort oo dhaha Jarmalka si tooxan inaad ma arkaysa aad waranka ugu dhufataan rabnaa annaga السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دولة مختار روبو وleedahay kastoo waxqabadkiisa iyo wax garatiisa ay diidantahay u malaynaya sida ila tahay aniga ilaa nin kastaba siba u fikiraya Mukhtaar Robow waa nin oo balanqaadkiisi oo fulinayo way 3 walood balanqaadka oo aan ku taageersanahay oo balanqaaday inuu nabadi soo celinayo inuu wadooyinkii fudaayo inuu noo hiilinayo oo ku bal aan ku jeclaanay dawladana waxa weeye waxaan u malaynaa mawhuba aniga inkasta warqada dawladda ka soo baxday warqad oo official maana la dhahayay dad oo Mukhtaar Robow aan jecleen warqadaas inay soo sameeyeen ee dawladda aan ka soo bixin laakiin dawladda warqadaasi ma sameyn hadii la dhiilaha waxa jira in ma arkayse sirdoonka Soomaaliya ninkii haystay hadda iscasilayni la yiraahdo Xuseen Calool Kuus iyo ma arkayse Foosiyo oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya guddiga amniga ka tirsan in ay u dhoofeen Baydhabo wasiirka amnigana uu ka daba tagay iyagoo 50 askari ilaa iyo 70 askari wata sida la sheegayna ay doonayeen in ma arkayse airportka ay uga yeeraan Mukhtaar Robow kadibna katiinad isagoo katiinadaysan ay xamar ku soo celiyaan si doorashada ay u gafiyaan marka arrimahaasi waa arrimo ma arkayse la soo maray waana tii shacabka kicisay weeye ilaa ay haddana dawladda federaalka media intay soo istaagtay raali garayn buuxda kama hayno annaga war hoos la yiri lama rabo sidaas daraadeed oo waay dawladda sabab weerarka intaasi la eg Mukhtaar macnaheedu soo ma dhihi karno dawladda Soomaaliya waxay gabtay macnaheedu hawshii loo idmaday waxay ahayd xasilin iyo nidaam inay u samayso Soomaaliya ay taageerto wixii wanaagsan federaal iyo dimuqraadiyad laakiin iyadiya ka soo horjeeda ma dhihi karna midda kale maamullo fara badan ayaa dhisan Puntland ayaa dhisan Galmudug ayaa dhisan waxa dhisan maamul la yiraahdo Hirshabeelle dhammaantood dawladda federaalka wasiiradeedu intay ka degaan uma yeeriyaan qofkay dooran lahaayeen laakiin koonfurta Soomaaliya kaliya maxaa galay waxaa galay dhibaatadaas laciifnimada aniga iyo dhibaanada qaarkoodii oo laciif oo aan hadlaynin taas ila tahay aniga ilaa waxa way dawladda nafteeda wili ma aan arkin warqadda inuu media ka sheegtay Mukhtaar Robow oo nin mas'uul oo dhahay Mukhtaar Robow kama soo qayb galo doorashada kole wax hadda aniga aan maqlay ma jirto sida la sheegayeen dad oo dana qaas ka wato inay socdeen sida hadda u sheegtay ninka hadda oo tagay Fawzi la socday naftiisa hadda waa iscasile waa soo sharaxooya alloona ma dhaha karno aniga dawladda ka dambayso dad kala ka dambeeyo oo dawladda aan ka mid ahayn sidaan jeclahay waayo kugu soo noqon doonaa waxaan u gudbi doonaa Dr. Ali Baab dhibaatadan waa dhibaato taagan ilaa iyo ma arkayse 60 sanadood ayaa lagu qiyaasaa waxa tahay dadkii ma arkayse dalkan taariikhdooda ururiyay baa tahay adoo soo koobaya waxaan rabnaa sababta keenaysa in ma arkayse haddii dawladda aysan ka dambayn arrinta warqadda sababta keentay in galab ay dawladda u dirto wasiirdoonkii hore ee Soomaaliya Calool Kuus Foosiyo iyo wasiirkii amniga iyagoon la ogeyn inay ka degaan iyagoo askar wata for why macnaheedu sida Dr. Axmedey wuxuu sheegay ma hubno dawladda inay warqadaasi qortay marka maxaa keenay haddii warqadaasi aysan jirin in ay ka degaan Baydhabo iyagoo askar wata bismillaah adoo soo koobaya pointigana taaban Dr. Ali Baab marka hore warqadda la sheegay waxaa lagu arkay social media nidaamka dawladnimada waxa ay tahay qofka warqadda inay isaga ku socoto oo fadhigiisa loogu geeyo laakiin in social media la soo dhigo warqad aan shaabad lahayn aan saxiix lahayn qofkii ay ka soo baxday aan la ogeen taas aniga waxaan dhihi karaa laba arrimood aan dhihi karaa aniga laba arrimood sababtoo warqadda yani headlineka dawladda wadato waaye wasaaradda amnigay wadataa waa warqad official laakiin haddana official ahaan muu dhammaystirno
qofkii ay ku socotay yani kuma qorno ninkii ay ka soo baxdayna meeshii ay ka soo baxdayna kuma qorno marka saa daraaddeed warqaddaa noocaas ah waxaan u qaadanaa inay tahay lack of political maturity inay tahay warqaddaasi haddaan ka noqonno sababta macnihii koonfurta soomaaliyeed loo caburinayo doorashadeeda dastuurka koonfurta soomaaliya wuxuu qorayaa in maamul goboleedkaasi isagu uu xaq u leeyahay madaxweynuhu doonayo inuu doorto sidaa daraaddeed maxaa macnihii dowladda soomaaliyeed ay xoogga u saaraysaa inta badan koonfurta soomaaliyeed oo macnihii mar walba ay u doonaysaa in ay maarayso ay maamusho waayo hadda cabdicasiis lafta gareen wasiir ayuu ahaa sidaa ka warqabtid wasiirna uu yahay annagu haddaan wariyaalnahay iskama duulno xaqiiqan ku duulnaa inta badan documenti annagoo haysanna aan soo galnaa baraha bulshada iyo ma arkaysa internetyada meel walba macnihii hadda wuu ka haray laakiin dowladda waxay isku dayday inay musharaxiin soo dirto si loogu jebiyo kan dadka ay doonayaan sidaas daraaddeed maxay dowladda u rabtaa qof maqaar saaro iyadu ay wadato maxay ula rabtaa koonfurta soomaaliya we have to operate waa inaan qalnaa doodaasi why saan u sheegay horta warqadda arrinteeda meeshaas ku eg tahay sababtoo ah ciddii ay ka soo baxday iyo cidda ay u socotay midna yani kuma xusno taas waxaan u qaadanaynaa inay tahay lack of political maturity meeshaan aga haraynaa tan labaad waa laba arrimood waay mid sida xaaji axmedin u sheegay yani waxaa la rabaa ummaddan in la tijaabiyo oo lagu tijaabiyo basiirkeeda iyo aayaheeda in loo meeriyo oo loo dooro tan labaadna waxa waaye in ummaddan mataqaanaa degan koonfurta soomaaliya 2020 sida yani maalin dhaweed ay ayaga xuseen oo dastuurkan ay kusoo yani ay u ansixiyeen waxaa dhacaya doorasho qof iyo cod waxaana lagu saleeyey in loo qaabka doorashada uu noqdo qaab deegaamaysi ah saa daraaddeed waxaa la rabaa in deegaanadaasi ayan amni ka dhicin ay ahaadaan sida hadda ay yihiin kadibna yani degmada keliya u bannaan ay noqoto baydhabo ay noqoto dhammaan wixii meeshaas ka soo jeeday koonfur galbeed in baydhabo ay isugu yimaadaan ee doorashadii ka galaan meesha baydhabona waxay noqon kartaa keliya ay qaadaysaa 5 kursi ama 6 kursi ka badan ma soo bixin karaan marka waxaa la rabaa in siyaasadda laga fogeeyo arrintaana waa arrin dheer maalintii xorriyadda la qaatay ayaa la qoray in yani dadka qowmiyaddan ka soo jeedo inayn imaaninbo yani labadaas jago ay ugu saraysa dalka inayn weligood imaanin waa lagu jaangooyey waynay ku wada heshiyeen labada qowmiyadood ee walaalaheen ah saasaa lagu heshiiyey marka waxaa la rabaa in lagu dooro nin manhajka isaga uu ku shaqaynayo laga maamulo madaxtooyo uusan yani u shaqaynin masiirka iyo rabitaanka ummaddaas iyo maslaxadeeda mid aan ka shaqaynaynin oo yani xildhibaannimada markuu ahaaba yani ummaddiisa iyo deegaanka uu ka soo jeeday aan waxba u tarin aan waxba ahayn yani aan xataa laba erey aan dhihi karin ayaa la rabaa in mar walba lagu keeno oo ummadda lagu horjoojiyo waa kugu soo noqon doonaa doctor cali baab wasiir ataka su-aal gaaban haddaan ku weydiiyo su-aal gaaban inaan ku weydiiyaan doonaya dood culusaan macnihii ku jirnaa waa ku weydiida oo kugu soo noqon doonaa macallin mustaf su-aal ayaan ku weydiinayaa su-aashaan ku weydiinaya waxay tahay maamullada ka jira soomaaliya oo dhan dowladda federaalka ciidamadeedu puntland ma joogaan galmudug ciidamada dowladda federaalka tuutaysan iyo generaallo kama taliyaan hir shabeelle waa sidoo kale marka runta aan isu sheegno afgooye ilaa iyo buuraha kaba inta u dhaxaysa iyo maayafuulka waxaa yaalla in ka badan 100 isbaaro wariyaashii aan u dirnaa noo soo xaqiijiyey dumar in la kufsado iskaba dhaafay ragga ayaa lagu kufsanaya hadda baabuurta waxaa la sheegay haddii dumar aysan soo qaadin ragga in la kufsadaa la sheegay oo la leeyahay maxaad dumar u soo qaadi weydeen sidaasi daraaddeed waxaa jirta in ma arkayse qaarkood waalidiin lab iyo dhadig iyo caruurtooda isla socda la leeyahay ma arkayse filimaana la idinka duubayaaye ma arkayse macnihii dusha iska fuula intaasoo dhaqan xumaha iyo dayuusnimo jira kama jiraan maamullada kale ee puntland iyo galmudug iyo hirshabeelle oo soomaaliya state ka tirsan kama jiraan okay dowladda federaalka soomaaliya sababta ciidamadeedu shabeellada hoose iyo ma arkayse bay taliyaha guutada 6aad ilaa iyo ibraahim yarow ahaa caanooda taga wuxuu rabuuna u meeriyaa maamulka meesha ka jira
waay militariga dowladda soomaaliya koonfur soomaaliya keliya muxuu u joogaa daraaday ahayd iyadoo meydkii oktoobar uu dhooban yahay saddexda mas-uul ee ugu sarraysa midna jawhar uu aaday iskuuluu soo dhagax dhigay midna marka ayuu u soo duulay isla markaasna wuxuu yidhi 2 beelood baa la heshiisiinaya labadaas beelood oo sida dadku koonfurta ay aaminsan yihiin iyo soomaali weyn ay ka dhergsan yihiin qaar ay yihiin kuwa gobollada dhexe 3 gobol 2 gobol soo tallaabay la leeyahay 2 beelood oo meesha deganaa la heshiisiinaya heshiiskaas oo aan rabno inaan noo qeexdo sidaasi daraaddeed mursal uu ah isaguna dig feer uu aaday dadkii qaraxyada baydhabo 13 oktoobar ayuu booqday waa la kala tegey dowladda federaalka ciidamadeedu waay koonfurta soomaaliya keliya ay ugu mashquulaan misna dadka ugu dhibaateeyaan maxaa u diiday gobollada kale in ma arkayse ay tagaan ay amni ka sugaan adoo raalli ah بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم horta may waaha tan inka horeyto oo dhibaatada in haysato wal unono arigayo wal unono arigi may la reey lanka oo holo jarka ulisa la katume hadii dad oo furfurano walaay isku reebo una anne ciidama malnayn sheedafan ciidamadeena wadanka maamulo lahayd malka arafana anti ma aragna hogidad laha ku diro mise warqad laha diro lankaas ma dooradaasan malka arafan wal unono arigi yana ni maamulahay taas dumidiye to kale ka dare markan tan kale an ka daraawmay waaha goboleedan oo hata ma aragne oo maamulku ku jaro yo dadyo dooradeen madaxweynaha intii hadal lankaas ma doorada kortaan ma aragna walay nin liya meel ka jar kastay ciidamada ada sheegaso oo lanka oo meel roogo oo hogga intii dad lan ku diro oo wal in sheegawno taasa kuma dhata markan lanka muktaar ee wala lika diidin ka ta kin sheegay markan may lika diidinya sidoo hada ku hadaliyo sidoo wal had ku hadalay may waaha may aray hob an idoratan jidkan hamar inta dhati oo fureewar ila diin sor jidka ina fureewar markan tan kale may aray ila an ku dhamaadawno ma aragna wadankan aan maamulay war taasa markan dawladda ku horjeed tanoo la diidanya muktaar intii lan dooro la dijinay taaso aad iyo aad ayaad u mahadsantahay bointiga sida aad ugu dhufatay macallinow cabdicasiisow adiga ayaan kuu soo gudbayaa waxaa jira dhalinyaro fara badan oo dowladda federaalka soomaaliya hubka u sidaa jira oo ka soo jeeda koonfurta soomaaliya muqdisho marka aad fiiriso waxaad is leedahay 3 meelood 2 meel waa dadka reer koonfuraad is leedahay degmooyinka muqdisho 16 degmo koonfurta soomaaliya dad ka soo jeeda gudoomiyaalka ma ahan xaafadaha madax kama ahan bal soomaali weyn dad puntland ka soo jeeda xataa gudoomiye degmo ka ah muqdisho macnii caaniyaad keentaa qudaartiyaa keentaa adigiya xabadda u dhimanaya haddaad macnii dhallinyarada koonfureed aad tihiin waay macnihii dowladda federaalka soomaaliyeed ama maamulka gobolka banaadir sababta dadkan deegaanka iskale ilaa 4 rukun baa sheegataan 6 gobol iyo 4 rukun waa 6 gobol iyo bar maxaa u diiday in ma arkayse saami aad ku yeelataan oo degmooyinka muqdisho aad maamushaan macni maxaa idin diiday meel ara horta jawaabtu way baa markaan ka horeyta yani shacabka oo koonfur galbeed yani hordareer fay lama qoban يعني هدي هردريركا ميل أراي حماذا هذا دب مقبهاسة تان أنا ميل أراي إن شاء الله أنا آمن ستاسواي هردريركا نو حماذي هو بهردريرك حماذونا دبعتذ إلا إيونا ميل أراي إن شاء هردرير فيل كلام صلى إن صعدا سواي مركا بوينتيجو هذاك هذا اللي نفيلت إيدا نفيلت ميل أراي إن شاء الله لكن هردريركا إني أنا إسكهاجا جنو هردريركا نو حم إيه هردريركا إيدا أم حنيا سؤال شدان كوكوسون نقطة هاي هذا الشريف حسن شيخ آدن أيام أركس بيدبو معمول كهذا معناه وقت جيسو لما هذا يسقى مدحوينك ورشح ويه صح واه سيدا سيدرات ديد شريف حسن شيخ آدن أفر سنة أيو جوجي محاو قامية في عن ما هين ميا يسقو والله شريف حسن أفرسني ميل الروجي لكن أفرت سنة أسميل الروجي يعني والأوش هذا الشعب كمقابضي أو موقظ ماله يعني هذا لما ذي أسبوع عن قدام بويتي
maylaaraay garoonkan doctor ayuba shalay afar dhagax dhigi haldhisee liye isbitaalka wiilashay maylaaraay 40 sano baydhow intii usoo hakabahay maylaaraay in sheegada airport intii usoo hakabahay baydhow ma koyna yani qaraxtu mi sideeda markii dhii oo October kadiba maylaaraay in sheegada taasna la iska dareemo kor waay yani taasna usoo malaha ka dooradaw laakiin dhibaatada jirta way buwa Shariif Xasan hadii runta la ka hadalow shacab koonfur galbeed lan oo maylaaraay maanta anfacawna ma inay iska baxo fayle xumaan intii iska baxafadi ama dhibaato ka dhiifati iska baxaya fayle because afarsan roogi afarta sana ka falanta wala is aruursadii ama soo is aami laakiin hadda ko kala nin kooynin fayla maadaama shacabkii dhibaataysan lan dhibka ki biyown usnagada waay because araga haytan dhibaatada hadda jirta Shariif Xasan number 2 usi ku way ban ku iyataas adeenta lahay way bua araga haytan mayla rayn sheeg adii xildhibaanada koonfur galbeed yani intii lan ka taragalay ma soo bisa ka darsadii xaanasna way baaray xalak weydii hayay waan kula challenge gareynaya qodobkaas isaga halka igu hay okay koonfurta Soomaaliya dastuurkeedu wuxuu qorayaa 90 iyo dhowr xildhibaan ayuu qorayaa sax haddana waa 149 xildhibaan weeye wasiirada koonfurta Soomaaliyeed waxaa ka tirsan dad gobolada dhexe ka soo jeeda ayaa ku jira 88 gobolada dhexe sida galguduud iyo ma arkaysa mudug koonfur Soomaaliya waxaa u dhaxeeya ma arkaysa Hiiraan gobol la yiraahdo iyo gobol la yiraahdo Shabeellada Dhexe u dhaxeeya marka aan runta isu sheegno sax dadka koonfurta Soomaaliyeed waxay degan yihiin Puntland 80% dadka ganacsada weyn iyo sax waa sidoo kale galmudug ay degan yihiin Hirshabeelle ay degan yihiin Somaliland oo gooni goosad sheegatay maxaa ma arkaysa looga waayay goboladaasi dadka koonfureed oo tax payers cashuurta dhiiba oo ma arkaysa ganacsiga ku haysta hal degmo ama hal agaasimo kuma leh maamulada meesha ka jira sidee ku soo rooday dadkan goboladaasi dhexe ka yimaaday in ma arkaysa sida Sterling Abdi Caruush walaalkeeda wasiirkii qorsheynta dawladda koonfurta Soomaaliyeed ah waxa u dhow gobolku ka yimaaday Hiiraan u dhow waxa u dhow Hirshabeelle u dhow wabi hadii la rabo Hiiraan wabi ay leedahay Shabeellada Dhexe wabi ay leedahay macni meeshaasi wasiirna kuma leh mana degana maxaa Shabeellada Dhexe intuu yimaado baydhabo maanta ma arkaysa uu kafay ugu cabiyaa wasiiru kugu yahay su'aashaasi aan rabaa in ay iga jawaabto su'aalaas markuu waa su'aal eed aan faylo waaye yani horta mayl rayn sheegada arrintan way la daba socotee yani tii aan hadda ku hadalay because lanka mayl rayn sheegada oo hadda meela yani inuu madaxweyne ka ay sheegada oo Shariif Xasan sheegadan lankaas way buu mayl rayn sheegada horta yani danta oo shacabka koonfur galbeedna maka wait oo kugu soo noqon doona waan hay danta danta shacabka koonfur galbeed usuma ka taliyahay dan usuwadada iyo meel raay in sheegada way ba ka taliyahay يعني arrimooshay kala meelo way ba ku weelay horta suuq ganacsi amal ku weelay lanki usufadaw yani meel kasta ka kooy yaasheen aday way baliya lanku ka hal mar yani because wal ku qabado korna ma leewalay ciidankii hadii meel raay in sheegada intaasoo kun oo ciidan la dhisay la kale maalin kasta telefishinka ka fiirsadaan yani daynuunay oo inta ay baylo wal yar an jirta ya meel raay in sheegada ya laba nibad la kamar waysna iska dhaafada meel kala la seeda marka tan koowad oo aan hadda ka era way buu su'aalada diyaarta way buu yani xildhibaanadaas oo hadda usasi iyo nimankan wasiirada meelka iyo dhan way buu cadaalad darrada lay kamid ah way because us dantisa fiirsadahay danta shacabka ma fiirsadahay way marka shacabka koonfur galbeed way badan inta lankaas ini iyo meel isku qaadan hadii oo nibad isu ka baxo waayo sidii kale la ka baxo meel rayn sheegada lay ka baxo kor waay lanki shacabka taageersan oo meel rayn sheegada shacbiyada badan wadada lankaas lay meel kooy kor waay Shariif Xasan maagle in roore waqti ay kin ka dhungnay hadda faylata lanko meel rayn sheegada iska baxade marka saas leh Abdi Xasiis aad ayaad u mahadsantahay ku soo noqon doona gudoomiyaha dooyi ayaan rabaa inaan u gudbo wasiir ataaka waqti badan ayuu rabaa dib aan ku soo noqon doonaa isaga Mr Samatar caawa waxaad ka hadashay ma arkaysa xafladii Danhaag oo lagu taageerayay musharaxa ma arkaysa haatan dadku ay doonayaan Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur la garay laakiin musharaxiin kale jira oo ilaa iyo ma arkaysa Farkeeti uu kamid yahay oo ay kamid tahay ma arkaysa Xuseen Kushuk uu kamid yahay Makacaan uu kamid yahay ma arkaysa Aamina ay kamid tahay gabar la yiraahdo waa ay badayn injineer Saalaxa kamid ah intaas oo musharaxiin ah bartilmaameed ma noqonin warqadan marka aan ka gudubno Sheekh Mukhtaar marka la soo qaado xasaasiyad baa ka taagan sidaas daraadeed Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur ka hor 4 sano Shariif Xasan meesha joogay dawladda Shariif Xasan hal maalin kama hor imaan sida Mukhtaar Roobo hadda ay u diidan tahay
ma dhihi karnaa shariif xasan sheekh aadan nafsadiisii waxay dadku sheegaan waxba looma yeeriyo laakiin isaga nafsadiisa waxbaa loo yeeriyaa ma dhihi karna maxaa yeelay xasan sheekh maxamuud oo ahaa madaxweynihii jamhuuriyadda federaalka soomaaliyeed ayaan dhoweyd maruu ka hadlayay idaacadaha ma arkaysa afka maxaaga ku baxa wuxuu sheegay in ma arkaysa uu ka soo horjeedo inuu macnihii dastuurka inuu ogol yahay inuu mukhtaar isharaxi karo qof wax u diidaya aysan jirin laakiin wuxuu sheegay haddana in wakhtigan munaasib aysan ahayn mukhtaar inuu is soo sharaxo marka saca naasa adag iyo weedha maxaa kulmiyey weeye macnihii diidmada farmaajo iyo khayre iyo ma arkayse shariif xasan dhammaantood inta ma arkayse ummaddan ay u aragto in ay cadow ku yihiin mukhtaar inay diidaan macnihii sow ma dhihi karno ilka abeese hoosay ka xidhiiraan horumarka ummaddaana la diidan yahay mukhtaar waxaa loo arkaa ninkii isbaarooyinkan qaadi lahaa wallahi waa loo arkaa mukhtaar wuxuu ahaa nin kolley sida aan ogsoonnahay waa hogaamiye wuxuu ahaa hogaamiye oo dalka usoo halgamay marka xukuumadda oo federaalka markaad fiirisid dadka ku wada jiro oo madaxweynaha ilaa ra-iisul wasaare ilaa wasiir waxay u badan yihiin dad oo diaspora waddankana warba u haynin xaaladda waddankana meeshuu maraaya iyo sidii xal loo keeni lahaa iyo amnigii iyo kala dambeyntii iyo wixii aysan wax ka qaban karin xaaladda hadda farahayba ka baxdayaa la dhihi karaa markaad fiirisid sheekh mukhtaar roobow xaaladdaas waa nin wax ka qaban kara waayahay meesha iigu hay haddii xaaladda uu wax ka qaban karo dowladda ciidamo shisheeye waxay u dalbatay in iyada la caawiyo amniga lala sugo sidaasi daraaddeed haddii macnihii dowladdii ay heshay macnihii maamul qof hogaamin kara maamulka caawin karana isbaarooyinkan ka qaadi kara oo ma arkaysa jidadkan go-go-an waajibkii dowladda ay lahayd waa inay fuliso iyadaa dalka mas-uul guud ka ah hadday heshay maxay u diidan tahay maxay ma arkaysa macnihii xasaasiyad uga qabtaa what's wrong maxaa qaldan ani kolley waxay ila tahay sheekh mukhtaar hadduu hadda ku guulaysto musharaxnimada sidaa aanaga filayno shacbiyada wuu haystaa laakiin baarlamaanka yaa wax dooranaya lahay xildhibaanada baarlamaanka ku jira koonfur galbeed hadduu ku guulaysto marka maxaa dhici kara waxaa dhici kara inuu wadooyinkii furo inuu xitaa shabaabka la heshiin karo oo wada hadal dhex mari karaan dowladda dhexe waxay iyada qaban weysay inuu bilooyinka ka qabto yaa dhici karto wayna u badan tahay marka sumcaddaas inuu yeesho oo markii tan soo xalliyana waxay ka cabsi qabaan in oo mustaqbalka 2 sano u harsan dowladda inuuba isu soo taago ama soomaali weyn ay ka codsato sheekh mukhtaar haddii aad soo xalisay koonfur galbeed marka adigaa kuu dooranaynaa madaxweyne miday ka cabsanayaan taasay ila tahay ani macnaheedu marka waxaa weeye barrage waxa la yidhaahdo ciidanka markay rabaan inay baxsadaan oo gaari iyagoo ku dhex jira qafilan lagu xabadeeyo waxay sameeyaan barrage wax la yidhaahdo ingiriiskana wuxuu yidhahdaa still water run deep biyo inta aysan ku soo gaarin baa la iska moosaa aas-aasigii koonfurta soomaaliyeed hadduu soo dhiso qofkan meesha ma istaagayo wuu soo socon doonaa siduu usoo walaandaynayo villa soomaaliya u imaan doonaa pointiga waa sidaas waxaan u gudbayaa mas-uulkaasi su-aal waxaan weydiinayaa xasaasiya runtii waayahan mukhtaar roobow markii ummaddiisu ay dalbatay isagoonan rabin inuu madaxweyne noqdo oo dal iyo dibad la wacay baraha bulshada iyo meel walba waxaa isqabsatay dadkii ma arkaysa afgabaadsiga soomaalinimada sheegan jiray dadkan soomaaliyeed ee mayga ah macnihii ku afgabaadsan jira inay walaalayihiin laakiin horumarka aan u ogolayn dad san way jiraan runtii laakiin dadka cadowga waxay bilaabeen in ay dhahaan waa argagixiso waa dhiigyacab su-aasha isweydiinta le waxay tahay mukhtaar roobow dad isaga la mid ah bal isagu bannaan cidlaa intuu soo istaagay heshiis uu ku yimaaday caalami ah saa og tahay maraykanka ayaa ka qaaday
isagoo duurka ku jira oo shabaab uu la dirirsan yahay wiilkiisa shabaabaa dilay sidaan ognahay intaasoo milyan maraykana ka qaaday isagoo heshiis caalami uu ku jiro muqdisho ka soo degay sidoo kale dhiiguba u shubay dadka Soomaaliyeed ee la qarxiyay laakiin Sheekh Shariif Sheekh Axmed baa jiray oo 500 oo kun oo dhalinyaro Soomaaliyeed oo iskuulay aniga macallin iskuulaan nafsadayda anoo wariya ah iskuulada xirana la yiri tarabuun ka kaxay daynunay idaalo ku shubay ilaa hadda reerooda ka maqayin wixii kale oo gadaal ka dhintay waxa jira nin la Cabdi Qaybdiid oo hoobiyaha islaamiga dahabka iyo dollarka si ugu garaacay meydka macni sagaasin jirada saableyda ma arkaysa u firirka meel walba noqday waxa jira nin la yiraahdo Zakariya jira oo dawladda federaalka xilka haya waxa jira Faad Yaasiin jira ilaa haddana soo ma hanuunin sirdoonkii Soomaaliya loo dhiibay in dhacdo oo biyi dadka iibin jiray wasiirka gaashaandhig uu ahaa ee maxaakiimta ninkii Addis Ababa ku tukanayna yiri ahaa Ethiopia saas ay ku soo gashay oo intaas dambiya dadka iyo dalka galiyay sida daraadeed dadka iyaga ah maxkamadda maxay u qaban weyday dawladda federaalka Soomaaliyeed dambiilayaal inay yihiin maxaa Mukhtaar Robow kaliya loo arkay oo ma arkaysa loo daba dhigtay maxaa laga urinaya that's a question su'aasha labaad waxay tahay dawladda federaalka Soomaaliyeed Cabdullaahi Farmaajo madaxweyne ka ah ra'iisul wasaarana waxa ka ah ninka la yiraahdo Khayre laba su'aal oo isgarab yaala way wasiir taariikhda aan hilmaami karin oo ku soo koray qaxootinimo oo rafaad ku soo koray oo ka tirsan dawladda Farmaajada uu hogaaminayo ayaa staafkiisu toogtay wasiirkanta dhowrkaana lagu tuumaa ilaa iyo hadda dablihii dilay waa loo moolaynaya lama dilaayo maxkamad military baa xukuntay military tribunal maxkamad military waa fulin saxiixa madaxweynaha sharciga sidoo qoray ilaa hadda la sugaya ma saxiixin ayaan dhaweyd 14 October oo aan aaminsan magacaasi in ma arkayse lagu dumin rabo lagu bedeli rabo deegaanka koonfurta Soomaaliyeed soo basarta la yiraahdo qarax ka dhacay oo annaga sirdoonka keena uu noo soo gudbay qaraxaasi dekada inuu ka yimaado banaadir lagu cabeeyay garaash ku yaala iyo dadkii ka dambeeyay hormuud ku jira la ogyahay way mooleysanayaan wiil baa iyo boqol ka soo jeeda sida la sheegayo baa iyo boqol wax jira maana koonfur Soomaaliya la yiraahdo ayaa la toogtay daratir macnaheedu cadaaladda Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre ma waxay qabataa dadka koonfurta Soomaaliyeed kaliya ma ay qabataa maxaa ee cadaaladda ay uga shaqeyn weyday dadkii ma arkaysa wasiir Cabbaas Siraaji dilay dadkii qaraxyada soo begeystay ee 500 kunka ku dhimatay labada su'aal adoo ma arkaysa ii koobay waa mahadsan tahay horta laba su'aalood ayaa ay weydiisay mid aan kala qaado waxaan la qarinaynin baa dalka ka jira oo u baahan in la sheego oo la ogyahay waxa la yiraahdo Soomaaliya qabiil baa ka jira ama farmaajo horta ha yimaado ama 10 farmaajo haday timaado dalku wali kama uusan gudbin problemkii qabiilka midda la yiraahdo dilka iyo xukunada hadda tan dambe marka kaaga soo qaado waxa weeyaan koonfurta Soomaaliya 91dii wixii dhacay hubkii dalkii dawladda lahaa reer baa qabsaday still wali reerkii gacanta wax ku hayaan aboodihii oo qabiilaadkii dhibkii dhacay baa wali colaadda shabeellada hoose yaan lagu dhihin darees dawladeed iyo dawladda ku jirto maalin meesha laga baxo siinka dheer ilaa iyo meel la yiraahdo Lego hal qof oo askari dawladeed ma joogo reer dad nin taliya reereed wax la yiraahdo sarkaal beeleed baa dhulkaasi wada haysta oo tuuta military la bisan yahay marka reerkaasi waxaa soo bilaabay Xasan Sheekh ayaa geystay dad meesha Xasan Sheekh asoo nimanka u joogaan baa baxay still nin baa yimid nin waliba uu yimaadana reerkiisu meesha wuu ku ilaashadaa soodaad marka ta kale oo ah xukunadan oo dadkan oo koonfur galbeed waa dad nidaam iyo dawladnimadu
lafaha uga jirto la ogyahay in nidaam ay ogashahay marka saas daraaddeeda mar waliba waxaa lagu dayaa marka in la qasbo oo aanan ra'yigooda la cabiraynin oo sidii raba laga yeeli karo oo laisku dayo in wax loo yeeriyo laakiin hadday jiri jirtay ma jirayso waa dhammaatay su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay kula jaalanka garaynaya maamulkan hadda saddexda gobol ah waxaa ka sii horeeyey 6 gobol maamulkii 6 gobol ka sii horeysay RRA nidaam la yiraahdo absolutely ururkii RRA taariikhda haddaan dib ugu noqono oo soo halgamayay iyagoo ka dagaalamaya Hawaii jiidaha gobolada ma arkaysa hadda cabursan Torotoro Walaweyn Afgooye afaafka buundada iyagoo ka dagaalamaya oo awoodoodu ay soo dhaqaaqday Allah u naxariistay General Shati Gudud ay hogaaminayaan iyo xaabsade iyo aadan madooba hadda baarlamaanka ka tirsan waxaan ognahay waqtiga iyada ah in ma arkaysa maamulkaas isaga ah la yiri Soomaaliya nabad bay qaadanaysaa Djibouti la isugu yimaado Cabdalla Deerow 17 xubnood oo hogaaminaya isagoo ah xogeeyay ururka RRA ayaa loo diray meeshaas isaga ah howlgalladii ururka RRA way hakadeen waxay u hakadeen waxaa la yiri Soomaaliya baa nabad qaadanaysa joojiya dagaalka markii kadibna boorso lacaga loo soo diray waa lagu burburiyay kumanaan kun oo dhalinyaro ah ay iska dileen aan loo baahnayn inay isdilaan tuun iyo boora loo bixiyay waa laga soo gudbay haddana waxaa timaaday waxa la yiraahdo 6 gobol mar rabo dawladda Cabdullaahi Yusuf inaan ku mashquulo 6 gobol markay timaaday 73 qabiil oo degan haba lagu kala badnaaday majority leaders minority yiraahdo koonfurta Ingiriisiga dadka yar waxay cod ka siiyaan dadka badan ilaahay dhulka dadku ku kala badiyay ilmaha xataa qof baa ilaahay afar siiyay qof wax ma siin qof 9 siiyay sida daraadeed 73 qabiil baa isugu tagay magaalada Baydhabo 4500 erga oo gobolada Soomaaliya koonfurta Soomaaliya oo dhan dawlad baa meeshaas ka soo baxday madooba nuuno si dimuqraadiya loogu doorto Allah u naxariistay waan ognahay Muqdisho in lagu dilay qaabka loo dilayna macnaheedu marka aan ka sheekaysan doona dawladii iyada ahayd Shariif Xasan Sheekh Aadan baa soo dhex istaagay isagoo boorso wata wuxuu yiri waa inaan ma arkaysaa 3 gobol qaadana sida aan sheegtay Xasan Sheekh Maxamuud baa ka dhawaajisay runtaan ka sheegaynaa Xasan Sheekh Maxamuud baa ciidamo geystay baa tiri Shabeellaha Hoose dareyska waa wax jira maahan waxaan waa qabiil okay waqtigaas iyadana Shariif Xasan isagoo saaxada siyaasadda uu ka baxay gudoomiyaha baarlamaanka Jawaari uu kaga guuleystay isagoo sheeganaya Shariif inuu madaxweynimo u ordayo siyaasadda uu ka bixi rabo uu 3 gobol Xasan Sheekh oo feermo ugu soo jeeday 3 gobolna ma ahayn 2 gobol bay ahayd annaga og kontraada dhabta ah isku soo wada duub waa laga soo gudbay haddana waxay timaaday in 3 gobol iyadoo Shabeelle State la dhisay la leeyahay degmooyin kamid ah Shabeellada Hoose ugu yaraan in la goosto haddii la goosan waa Shabeellada سأقول شريف حسن شيخ آدم إنتان أو بروبليمو تاجن إنتان أو سياسي اللي دليل عبد الولي قاس أو بنتلان كسو جيدا تي أو دجوالو جاي سقو دتكيسو يكون كعسيين بدن جوجا ولا يا ويل دعس وتو دينصور يبورها كوا يحضر كي مادي دعس نماذا ميا أنا نقول حكومة كرا لول كنا سيدا درادة جواب كما أوسن بيبين هذا مرستان مركي لقرحية دولة تسك مركي لقيه ماذا قروا كده جماعة وحكسي الرئيس هبين هراء إن لقود الويل هالكفرة وحكسي الرئيس البرلمان كفدرال الصوماليات أو ماشي شرع الدجنتا نين بنت لان كسر جد إنه كو أفلقات ديي بعدين كرا أفلقات السياسة ده قومية كونفورت الصوماليات أو دن because أفكار كم هذا شو قبيل كليه كم هذا لو عقوه الله صوماليا كلبر أما بقول كيف كوب يكرتم سيداسي أوجد أديك مرك يا حسن شيخ أو هذا الدرا هذا أو له منصور رو وقت يسي لما جوجو إذاكم منصور برا تناب سيدا أي شيء تاني منصور رو وقت يسي لما جوجو له ما ديكرنا شريف حسن شيخ فرماجو خيره يدمان أنت وبيجا معني بيا يبينيس يكون جبوين كلوجو يي أحمد مدو جنبي جاميني لما أنتود وشقالة لو سو عربيي إن أي كسوليان دلكا ومدة كونفورت الصومالية ما ديكرنا سيدول كيلو وريجا
hadalkaasi inuu wax ka jiro ayaan yar kuu tilmaamayaa. mithaal waxaan ku tusayaa maamulka hadda waqtigiisu dhammaaday uu hogaaminayo Shariif Xasan Sheekh Aadan. afarta jeer problem siyaasadeed soo wajahday. waa markii doorashadii 6 gobol uu 6 gobol uu la dagaalamayay, 3 gobol markii uu dadku ku qasbay in la qaato, wuxuu abuuray dagaal aanan jirin. uu shabeellada hoose magaalada Marka waa ninkii gurigiisa laga abaabulay in ciidamo Marko ay aadaan ay ka dagaal galaan si culeyska siyaasadeed uga dego isaga oo si oo dood la'aan ah uu meesha u soo istaago. mar allaale markii doorashooyinka xildhibaanada la geliyay problem yar baa ku yimid. problemka markuu ku yimid wuxuu sameeyey reera aanan deegaanku hal degmo oo lala degan yahay ayagu dad la degan yihiin degmo dad la degan yihiin ka degan inuu degmooyin aanan jirin u magacaabo si uu garab uga helo. mar labaad ayuu sameeyey. 3 markii hadda maalin dhaweyto doorashooyinkan problemka ay jireen wuxuu abuuray dad aanan degaan xataa 5 qof ka deganeen inuu yiri magaalada Baraawe waaba degantihiin maxaad u aamusantihiin ma hadaad run sheegaysaan aad hadashaan oo ka dagaalantaan ka dhidhisaan dadka naayo magaalada Baraawe abgaal ma degana inuu meesha uu reer cusuban uu hadana uu abuuro. Shariifka marka aad aragto ma ahan shakhsi samata bixin u yimid koonfur galbeed u yimid, waa nin raba in oo aasaarka ka jira dhulkaasi raba inuu baabi'iyo zuuliyo. finalki ninkii ugu dambeeyay oo baabi'in lahaa inuu noqdo in loo soo train gareeyay u yimid. yani uma baahan caddayn, shakina kuma jirto, balse waxaan sheegaynaa intii uu horay haddii aan helno yowm min al-ayaam waa la xisaabtamaynaa maxkamad dacwad annagaa geysanayno maxkamad dacwad geysanayno waana dacweysanaynaa Shariifka. laakiin waxaan kuu sheegaynaa rabitaankayaga hadda kadib rabitaankayaga shaqaynayo aadanana hor istaagi kara ama ha noqdo madaxweyne Soomaaliyeed ama ra'iisul wasaare ha noqdo ama nin kasta oo Soomaali ha noqdo. rabitaanka shacabku cidna ma hor istaagi karto. tani waa ay dhacday. waana ku maasantiin. aad ayaad u mahadsantahay. waxaan rabaa Amaal inaan gudbo. Amaalay adinku haweenkii baa tihiin, maadaama haweenkii aad tihiin waa maxay doorka aad ku yeelan kartaan la idinkaga baahan yahay maanta haddaad tihiin dumarka isbeddelka la doonayo in koonfurta Soomaaliya ay samayso si dhulka dhumaaya iyo kan maqanba iyo dadka loo samata bixiyo. bismillaahi raxmaani raxiim. bismillaahi wakafaa alxamdulilaahi rabbil caalamiin arraxmaani raxiim. ilaahay waddada toosan hortaan ugu hanuuniyo. waxaan annagoo haween ah waxaana looga baahan yahay in aan aayaheena iyo danaheena inaan u tashano. marka koowaad waxaan u baahannahay in dowladda dowladda federaalka Soomaaliya inay gacan nagu siiso sidaan u samata bixin lahayn dadkeena iyo dalkeenaba. taasi waa codsi, laakiin annaga danteena ayaan wadanaa. annaga dan noo gaar ah ayaa jirto oo haween haddaan nahay haweenka Digil iyo Mirifle. marka waxaan dhihi lahaa annaga ayaa isku tashanayno, cidna hor istaagi kartaana ma jirto. waxaana dooranaynaa hoggaankan annaga aan u baahannahay oo aana jecelnahay oo aan u qaban karo dalkeena wax ka qaban karo ayaan dooranaynaa. ninkaasoo ah mukhtaar roowow abu mansuur ayaana dooranaynaa. dowladda waa in ay ogolaataa, wayna ku qasban tahay inay ogolaato. haddii ay ogolaan weysana annaga ayaa dooranayno. su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay rabitaankiina waa ka hadasheen 6 gobolba waa rabteen wayna idiin shaqayn weydeen. waxaa la idiin sheegay caalamkaa diiday keliya la idiin sheegay waana joojiseen. haddii mukhtaar roobowga hadda aad rabtaan la idiin diido adinku maxaad samaynaysaa? mukhtaar roowow abu mansuur cid noo diidi karto ma jirto. annaga awood ayaa ilaahayna siiyey haddaan nahay haweenka Digil iyo Mirifle. innagaana dooranayno. dowladdana way ku qasban tahay, sanduli ayay ku tahay inayna ogolaato.
su-aasha aan ku weydiinayo kalaa waxay tahay gabdho adiga kula mid ah ama mid aad dhashay ama mid kula dhalatay nuucay doonta haato ayaa lagu kufsanayaa waddada u dhexaysa shabeellada hoose ilaa iyo baydhabo xanuun intee la eg qofka kufsanaya waa qof ka yimaaday 700 kilomitir 500 kilomitir weeye gobollo kale uu ka yimaaday dirayskii dawladdu wataa afku soo duubanaya deegaanka uma dhalan qofaanan kuu dhalan kuu nixi maayo xanuun intee la eg bay kugu macnihi wadnahaagu ay ku qabi karaan dhibaatooyinka lagu samaynayo ma arkayse gabdhaha adiga kula midka ah waddadaas aan mari karin dhulkooda wallaahi gabdho badan horta lama dhihi karo dowladda keligeeda ayaa waxaan dowladda dareeskeeda ay wata keliya iyo dad gobollada kale kasoo duula ayaa keliya wax kufsanaya ma dhihi karno shaydaan kastoo waddadaas taagan gabdhaheena wuu damcayaa wuuna dhacayaa wuuna kufsanayaa marka waxaa annagana looga baahan yahay in aan waxaas dhan aan ciribtirno ani qaas ahaan waxaan kasoo jeedaa gobolka shabeellaha hoose gaar ahaan awdheegle iyo marka iyo afgooye gobolka shabeellaha hoose ayaan kasoo jeedaa waxaan arkay gabdho badan oo la kufsanaayo oo la dandareysanayo annaga nafsadeena waxaan kaga soo cararnay meeshaas inta nala dhacay ayaa la dhahay hooyaday aabahay iyo walaalahaygii ayagoo joogo ayaa waxaa fariin lagu sii waxaan dhammaynay hadda xoolihiinii ayaan qaadanay waxaa inoo hara gabdhihiina inaan kufsano iyo weelashiinii kale oo harharay inaan aruursano sidaas darteeda ayaan uga soo baxno aan qaxooti ku noqonay ee muqdisho aan qaxooti ku noqonay uma dhalan anaga muqdisho inkastoo anaga aan deeg Soomaali waa laakiin anaga gobolka shabeellaha hoose ayaan kasoo jeednaa waxaan u dhashay digil iyo mirfle gobolka shabeellaha hoose baay iyo bakoolaan u dhashay ani qadiyadeedu way weyn tahay xamarna qayb ayaan ka leeyahay laakiin waa magaciisa adiga sheekadaasi waa sheeko dhaadheer ah marka gabdhaheena waxaan dhihi lahaa gobolkiina dhacsada oo xaqiina dhacsada yaan la idin kufsanin doorta ninkii dantiina iyo danihiina iyo wax kasto waxaan idin dhihi lahaa Mukhtaar Roobo Abu Mansuur doorta aniga ma dhahaayo hebel hala doorto ma kala soocay hebel ma dhahaayo waxaan hadda farta ku fiiqayaa ana leeyahay Mukhtaar Roobo Abu Mansuur ayaa idin samata bixin karo gabdho kufsigu idinka joogsana isbaaradu waa idinka qaada wabiyaashiini la idinka gadi jiray iyo gabdhihiini la kufsan jiray xoolihiini oo la dhici jiray wixii dhan waa isaga ayaa badbaadin kara isaga ayaa idinka qabanayo waxaas oo dhan waa kugu soo noqon doonaa waa kugu soo noqonaya wasiir ataakan raba wasiir ataaka oo su'aasha aan ku weydiinayo waxay tahay wasiir ka tirsan Shariif Xasan Sheekh Aadan maamulkiisa hadda sii dhamaanaya tahay Shariif Xasan inuu soo noqdo raalli ma ka tahay horta muwaadin aan ahay ninka muwaadinka ahna meel uu yahay ma la yaqaan nin muwaadin ah nin ummadiisa oo ogol dhibaato ma u ahi ka jirto haddana dhacdooyinka waa la diiwaan geliyaa BBC-da laga sheegaa laanta afka Soomaaliga ee af Soomaaliga maxaaga VOA-da oo laanta af Soomaaliga maxaaga laga sheegaa ilaan af may macnaheedu lagama soo daayo VOA iyo BBC af Soomaaligana waxaa la sheegaa inuu may maxaa yahay sidaa daraaddeed laanta afka Soomaaliga ee BBC-da waxaa la dhihi karaa marka labadaba laga soo daayo laakiin hadda waa laanta af maxaaga ee Soomaaliga ma laanta af Soomaali maxaaga ee BBC iyo VOA intaasi waxaa laga sheegaa almost xuquuqda aadanaha qofkii gabadhii la kufsada iyo wiilkii la jirdila Puntland iyo dhulkaasi xogaha aad baa looga sheegaa laakiin meeshaan oo balaayadu ay ka taagan tahay oo xataa ma arkayse gabdhihii fayl la saarayo oo dhibaatada ka taagan aan la sawiri karin adinku maxaad ka tihiin maxaad ka sheegtaan maxaadna ka qortaan waa mahadsan tahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wax xun waayena raallina kama ibni aadanimadana kuma jirto wax raalli lagu noqon karana ma ahan raallina kama noqonayno diinta islaamkana xaaran ay ka tahay annagana xuquuq islaamna waa ma ogolin mana hadda meel kasta aa sheegtay inaan marno qof waliba xaqiisan inaan usoo dhacina ayaan rabnaa insha allah biidn illaahi kariim
shirka Brussels madaxweyne farmaajo waa kala kulmay waana u tagay waana u sheegay dadka reer koonfur ani madax iga dhig ma dhihin waxaan u oolaleynaa markasta danaha dadkaas iyo ummadda Soomaaliyeed kii dhib qabo kii hiiraan dhib ka qabo kii meel kasta dhib laga qabo ayaan laakiin wixii kala daniga ma fiicna dani ma fiicna in ayaga ma dhihi karaan ummadan oo isdooratay qofkii doortay qof kale taba yaa og hadda inuu madaxweynaha soo sameeyay warqadaas ya ma dani la waayo annaga dani la lagu hadlooya ya ma tuugto ma jirtay laakiin no yes gudaheeda ma aan kulliga farmaajo warqada soo qoray annagu ma aynan dhihin yes laakiin dawladda federaalka Soomaaliyeed waxaa la yiraahdaa madax inta u sareeyo macni madaxa u sareeyo sidaas daraadeed ra'iiska Soomaaliya gabadhii lagu kufsada مسؤولية السجا قاضي. يا إلى راس كمبون راس عسير. يس. ديونه والله مي. تاس. سياسة درادي. الريكورد كأصلا يصير واحد شيء إن بروسلس أعطتي مثلا باجي على كلانتي. أرجع كيتين إلى على كلانتي. يس. يعني محاد يدوك ريكورد جريسين هداتين. ضدك حقوق إنسان كودودا يي. كونفورت الصومالية الصومالية. wax badan ayaan qoondeynay hatta anaga jid ma haysan umada gabadheena hadda caawade foolato daktar la'aan ay u dhimanaysaa maxaad ka qorteen wax badan ayaan ku qoray shabeelo yes qoryoolay ma arkaysa biyahan dadka laga iibinayo xitaa waa rasiis wax kasta anaga oo bakool macni diisor dhibaatooyinkan taagan jidadkan go'an maxaad ka qorteen idinku caalamka ugu wax kasta caalamka waa u sheegnay دولة وأشيغني لبعتها ما إلهي ويا على كل حال يس أنا بيران لنا هاي أمدنا بير سوق صورته أمد جد كاس هدي نوفر ما أنا جد كا لا جد كا وعلى فرع إن شاء الله واحد تلعب ترى إيطالي هل مال ديسن روما waxaan dhibaa wax way no qof waliba hawada ku dhigtaa waa gargareynay waana u sheegnay dawladaha caalamka ah dawladda Soomaaliya waa u sheegnay madaxweynaha aniga danahayga uma tagin waxaan soo jiifay inta asaga joogay ayaan la soo joogay hotel aniga iska intaas oo lacag habeenkii aan ku seexanay intaas dana gaar ahaaneed ugu inta danaha oo Soomaaliyeed kii dhibaataysan dhibaatadiis ina u sheegna iyo ku fasta gabdhahaas loo ku fisanaya dhibta oo dhan Soomaaliya way ka jirtaa yes laakiin waxa dhibtu way kala badan tahay Axmed Day inaan su'aal weydiiyaan doonaya su'aasha waxay tahay abukaate sharci yaqaan baa tahay qof intaas Soomaaliya siyaasadeeda u soo joogaata waab fara badan ma arkaysa soo noolaa adduunkan haddaan run la sheegin been ayaa qarsan sida caadada ay tahay abukaate buuraka waxa ka soo gali jirtay oo kaliya 6 dubutaati ayaa ka soo gali jirtay dawladihii hore sida taariikhda aan akhrinay haatan waxa loo gudbayaa nidaam la yiraahdo federalism ayaa loo gudbayaa la yiri federalismku waxa tiin dadka keenay baa tiin koonfurta Soomaaliya dalka Soomaaliya ustaad Cusmaan baa la xusuustaa in federalismkaas dartiisa loo dilay isagoo raba UN-ka inuu warbixin dhaba uu ka gudbiyo xaaladda Soomaaliya Soomaaliya waxa ka jira annagu haddaan wariyaasha nahay aan baaritaan badan aan sameynay sidoono fara badan baan nooga maqan waxba aan qornaa in gumaysi hoose dadi ay ku jiraan dadka koonfureed waxa la sheegaa Soomaaliya inay xor tahay laakiin xor dhaba ma ahan waxa ka jirta cunsuriyad dhaba ka jirta waxa ka jirta ma arkaysa gumaysi dad isku diir ah iskor saaran baa ka jira maxaa yeelay adduunyada Afghanistan oo quwadaha adduunka ay ku duuleen ee Iraq biyaha gobollo ay dad leeyihiin intay duuleen gobollo kale ma qabsan biyo kama iibin guriga kama qabsan beera kama qabsan laakiin Soomaaliya markii USCD la soo wada galay waxaan ognahay siyaad bara la iska saara waa la yiri dadkoo dhan hubka way qaadeen haddana dad baa ka faa'iideystay jabhadihii awoodii Soomaaliya gacanta ku dhigay gobollo kale ay qabsadeen sidaas daraadeed su'aasha aan ku weydiinayo waxay tahay oo aan rabo meeshaasi in ma arkaysa dadka aad ugu cadayso nidaamkan one man one vote qiyaanadu uu xambaarsan yahay waan naqaanaa
reer koonfurka sida loo soo waday waxaa lagu soo ooday in dhulkoodu inta la kala qaato haddana la yidhaahdo one man one vote suuragal ma ahan 2020ka 4.5na suuragal ma ahan waa in la sameeyaa deegaamaysi adiguna deegaanka aad haysataa waa wax tirsan maanta 15kii degmo xataa macni kaamilku ma ahan haddaba shacabkan ku daawanaya dhalinyaray u badan yihiin 70% waayeel waxbuu ka tagaa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سؤال مهم وايه هدان قومية الدقل إمرفلة وأن كسو جيدنو إلا لحظنكي إلى هدا دولنك واسعدا أبو تقيسك نفتيسي مليهن تاسنا وعن ليدر وأن كدن بينو ملها ليدر لعنتا أنو كنسا تنكالي عايشيكيس وارنتادي degmooyinka qaarkood gobolada qaarkood degmooyinkooda waa badsadeen sidii woodka ku helaan aniga iska dhaafa hal tuula ma lagu darin isdhaaf wax kale tan aan leedahay degmooyinka waa cuburiyihiin wax lagu cuburiyey waxay tahay markii dowladdii oo rayidka jirtay ankee waxaa meelaha qaarkood ka soo gali jiray dad waddanka aan u dhalinin for example aan kaga soo qabto qoryooley nin xaaji faarax la dhahay ka soo gelay oo waddanka ahay saas tahay cisadda daataa dad aaludiin aan nahay horta aad iyo aad diinta iyo cisidda iyo soo dhoweynta aan ku fiicannahay ninkaas waxaa loo siiyey cisad ahaan loo siiyey maan degma ahaan iyo gobol ahaan looma siinin tan aad leedahay one baan iyo one meegne waxaan ku dadaalaynaa inta aan awoodayna inaan ka soo galno degmooyinka aniga aan leenahay inaa aniga ahayta inaa aniga oo dad u dhashtay inay kusoo galaan aan rajaynaynaa أول وحواي وآموسنين كستوير واسكا عاليريان قبل إلى هدا إن لهاين وافريهن سيدي خور ماهن وحنا كده لينا دقموينكا أو أنيجا أن لنا هاي إنه ننكل أنك سوجل كرين هذا إلهي رالك ديكو أبو منصور روبو ونه تيجي دا النقضه ونن أو ليدر أو دقل إمرفل النقضانه هذا إلهي رالك ديكو أنجعله بلانقات كيسي وحو بلانقاضي إنه نو هيلينايو dadka kale oo soo sharaxayaanne iyagana waxa waaye waan soo dhaweynaynaa ninka ilaah helay ninka ilaah og ilaa aniga qalbigayna ninkana isbedel doon aan ku wadnaa waa kugu soo noqon doona waxaan jecelahay mas-uulkaasi inaan u gudbo adoo raalli ah mas-uul sida aad ka warqabtid mukhtaar roobo wuxuu sheegay dagaalka haddii hawshaasi loo idmadoo la doorto xoraynta dhulkan inuu isagu horkici doono ama uu ku dhiman doono ama guul kadib la iska wareysan doono haddaba su-aashiis weydiinta le waxay tahay shariif xasan sheekh aadan ma kula tahay haddii 4 sanoo dambe la doorto inuu tuuto gashto isagoo madaxweyne ah ciidamada uu horkaco sida mansuur sheegay oo kale jiidda hore ciidamada uu xabadda uu u bilaabo si dhulka loo xoreeyo ma kula tahay su-aashaasi iga jawaab horta shariifka inuu mukhtaar horta sida uu sheegay waa nin ka dhabeeya wararka uu yidhaahdo mukhtaar sababaha kalifay aan shacabku ma wada aragti xuma xaaladda aan ku jirno waxaan u baahannahay mudnaanta kow ay tahay amniga waxaan aragnay ninka keliya maanta samata bixin kara dalka inuu yahay mukhtaar tan labaad ta kale aad leedahay shariifka ma iska dhigi karaa mukhtaar siduu sheegtay shariifka mukhtaar inuu iska dhiga iska daaye maalinkii la doortay ayaa ugu maalinkii la doortay shariifka weligiisa 4 sano uu joogay maalmihii dhaweedo oo doorashooyinka hadda isoo dhawaaday ayuu magaalada centerka magaalada uu soo istaagay iska daa inuu wax kala qabto shariifka 10 habeen oo isku xigtay magaalada Baydhabo ma seexdo danihiisa khaaska ah asagu waa dulaal shariifku wuxuu dulaalaa dalka ayuu dulaalaa dalku dulaal ka yahay xamar ayuu fadhiyaa oo madaxtooyadu soo dulaalaa ma ahan hogaamiye koonfur galbeed ma ahan
waa magac u yeel madaxweyne laakiin waxaan kuu sheegaa inuusan jiraynin wuxuu hadda problem uu sii abuuroyaa oo dhibah sii abuuroyaa si marka wuxuu leeyahay maalin dhaweyta isaga ayaa yiriisow intuu gurigiis ugu yeeriiri yiriisow talo waxaan ku siinayaa xamar waa weynaatay gurihii baa isku xirmay maad soo codsataan in magaalada afgooye iyo balcad si loogu daro magaalada muqdisho aniga madaxweynihii koonfur galbeed anaa ku ansixinay ujeedadiisa waxay tahay haddii aniga ay doorataan waxaa idinkaga dhicinayaa maamulka gobolka banaadir afgooy waa idinkaga dhicinayaa haddaadan idooraninna ninka yimaado inuu lugaha dhiiqo u geliyo oo maalinkuu baxayo uu backdate waxa la yidhahda u sameeyo degmada afgooy uu bixiyo rabaa su-aashaan ku weydiinayo waxay tahay hadalkaagu dadku way jeclaysanayaan sida runta ah xaqiiqda ayaana ku dawaysa runta ayay taaganta maanta su-aasha aan ku weydiinaya haatan waxay tahay qaraxyada magaalada baydhabo intaysan dhicin ka hor waxaanu garanaynaa sida aa sheegta shariifka inuu ka degi waayey magaalada baydhabo uu warwareegayay mar sacuudiguu tegey sida aan ka warqabno isaga iyo buubeenin ay leeyihiin bankiga islaamka ayay 2 jeer tageen iyagoo macnihii weydiistay lacago zaka ah si ay ugu caawin ay u siiyaan dadka qaxootiga ee 350 baydhabo ku jirta waxaanu ognahay Kenya inuu ka soo degtay haddana uu warwareegayay sirdoonka Kenya war ayna siiyeen mar rabna magacyadooda inaan sheegno saraakiishu in ay cod ka qabteen qaraxan ka hor Shariif Xasan in ma arkayse shabaab uu la hadlay uu qarxinayo waxaan ognahay dayuurad UN-ka uu leeyahay United Nations-ka uu leeyahay qalqal si loo geliyo doorashadan barnaamijkeeda markuu soo bilaabanayay in askartiisu meel ay ku sugayeen makuudo la yiraahdo ay xabadayeen baalka bidxeed 4 xabadood ee kaga baxday United Nations dayuurad ay leedahay shabaab waxaa la sheegaa in ma arkayse Shariif Xasan Sheikh Aadan meeshuu maray aysan weerar ku qaadin absolutely qaraxyadan hadda taagan yiriiso warkiisi garoowe waxa ka yeeray dhibaatooyinka ka jira ee dadka lagu dhibaateynayo ganacsatada ma dhihi karnaa Shariif Xasan Sheikh Aadan marka haddii dib loo doorto macnaheedu wuxuu yahay gobolka Shabeellada Hoose wuu ku daayay hadda reer koonfurta iskaba dhaaf saddexdii gobol ee la raadinayay ee Bo-aale iyo Kismaayo iyo Geda iyo iskaba dhaaf horta ma dhihi karnaa taas horta waxaan suurtagal ahayn haddii la sheego jawaab aan suurtagal ahayn inay baxda suurtagal ah maxay tahay Shariif ma laga yaabaa in la doorto waa maya horta sideedaba laakiin waxaan kuu sheegaa hadday dhacdo oo musuqmaasuq oo qol intuu isku soo xiro oo yiri waa la doortay ay qolada Muqdisho joogtana ay accepted dhahaan iska dhaafe in Shabeellada Hoose ay gacan ka baxdeen koonfurta Soomaaliya gacanay ka bixaysa ta kalena waxaan kuugu xijinayaa haddii aan ahaan jirnay inaan annagu problemkeena annagu nagu sugnaado koonfurta Soomaaliya hadday nabadi ka dhici weyso Hargeysana nabad ka dhici mayso Puntlandna nabad ka dhici mayso oo Galmudugna nabad ka dhici mayso Xamarna nabad ka dhici mayso Kismaayona nabad ka dhici mayso Soomaaliya waa wada gubanaysa ama waa wada noolaanaysa wax ka dhexeeya waxaan jecelahay inaan u gudbo ma arkaysa Dr. Ali Baab maxaa kaaga baxaya hadalka mas'uulkan ee sheegay haddii ma arkaysa Shariif Xasan macnihi maba la dooranayo yiri haddii koonfur Soomaaliyeed ay nabad noqon weydana Soomaaliya taa ka kamid oo nabad si ahaan doonta hadda kadib ma jiro yiri sidaas daraadeed su'aashaydu waan ku noqon doonaa Shariif Xasan Sheikh Aadan haddii dib loo soo doorto maxaa dhacaya bismillaah runtii qaraxyada baydhabo ka dhacay iyo waxyaabaha dhacay oo dhan waxaa ka dambeeyey iyadoo 2 toddobaad ku hor baan sheegnay in qaraxyo ka dhacaya baydhabo social media dadka aan kula wadaagnay in qaraxyahaas ay dhici doonaan wayna dhaceen meeshii laga soo maleegay iyo yacni lugtii raadkii uu ku lahaa Shariif Xasan waa aragnay marka waxaan sheegaa haddii ay dhacdo in Shariif Xasan dib loo doorto haddii dalka Soomaaliya oo ku noqday waaye xaaladii 90kii taas ma baaqanayso sida walaalkay uu sheegay runtiis waaye Soomaaliya waxay dib ugu noqonaysaa ee lagu halgelaysaa xaaladii 90ka sababtoo ah
ummaddan waa la dhibaateeyey cadaaladdaraa lagu dhibaateeyey rabitaankooda la rabaa in la joojubo bini aadanka haddii ikhtiyaarka laga qaado rabitaanka loo diido yani waa isticmaar buu ku jiraa qofku wuxuu xur yahay marka yani rabitaankiisa ikhtiyaar loo siiyo haddii loo diido rabitaankiisa qofkaasi xur ma ahan saa daraaddeed waxaa nagu waajib ah inaan isxurayno ayaa nagu waajib ah sababtoo aan xur marihin mar haddiina loo diido ikhtiyaarkeena rabitaankeena la diido waxaan caddaynaynaa inaanan annaga xur ahayn oo aan reliberation aan subin doonno aan dib isu xoreyn doonno ayaan taasaan naga go-an wayna naga go-an tahay dib isu xoreyn waddadii xornimada aad ku gaari lahaydeen waxay ahayd dastuurka waxay ahayd koonfurta soomaaliyeed marka ugu horreysa guddoomiyaha baarlamanka koonfurta soomaaliyeed waxaad og tahay ilaa iyo hadda macnihii soo jeedin buu leeyahay normal sida sharciga uu sheegayo shuruucda maamulka koonfurta soomaaliyeed dastuurka wuu jebiyey ilaa hadda midka 3 gobol maxaa yeelay 2 bilood ka hor ay ahayd inuu magacaabo guddiga doorashada si awgeed tijaabaa la sameeyey daraad warqad uu afkiisu ka sheegay in wasiir ka tirsan wasiirada dowladda koonfurta soomaaliya xafiiskiisu ay ka soo baxday ee shaabadeedu leedahay oo in dhacda walaalkii nin ilma adeerre ay yihiin ninka shabeellada hoose haysta guddiga macnihii wax dooranaya uu ka mid yahay sidaasi daraaddeed warqadda iyadaa markay soo baxdayna maalintii isla maalinimo way beeniyeen iyagoo is-ag fadhiya baarlamanka taageersan tirada yar ee shariif xasan iyo shariif xasanka nafsadiisi haddaba guddoomiyaha baarlamanka isagu ma yahay hay-ad madax bannaan mise shariif xasan ama madaxweynaha markaasi jooga ayuu hoos imaanaya su-aashaasi waxaan rabaa in macnihii si cad aad u kala dhigdhigto maadaama aad siyaasi tahay wakiilkii dowladda koonfurta soomaaliyeedna aad tahay doctor cali baab runtii sida nidaamka caalamka uu yahay baarlamaanka waa hay-adda ugu sareysa ee sharci dejinta waana mataqaanaa hay-ad ka madax bannaan waaye golaha fulinta iyo tan madaxtooyada ka madax bannaan waaye balse baarlamaanka koonfur galbeed waxaa la sameeyey yani waxaa la sameeyey kadib markii madaxweynaha la doortay ayaa la sameeyey meeshaas wuxuu ku yahay baarlamaanka baarlamaan aan dastuuri ahayn baarlamaanka horena waa aga hadla aniga baarlamaanka koonfur galbeed dastuuri ma ahan maxaa yeelay baarlamaanka iyo madaxweynaha la hor doortay sharcigan wuxuu dhigaa baarlamaanka in kow la doorto baarlamaanka ay madaxweynaha doortaan horaan aga hadlay 45 maalmood iyadoo la dhisay ayaa waxa yidhi ha loo yeero shariif xasan baarlamaanka ha u yeero ha weydiisto mataqaanaa kalsoonida baarlamaanka way dhici weysay because shariif xasan waxaa soo doortay odayaal baa soo doortay oo meel ay yani mas-uuliyad ka haystaan aysan jirin odayaal aan tegi karin deegaanadooda oo aan dadka ay sheegtaan inay matalaan ay odadhaqameed u yihiin aysan dadkaasi ay dhex tegi karin oo iyagaba qaxooti ku ah madaxtooyada koonfur galbeed qaxooti ku ah ayaa soo doortay saa daraaddeed in waaba heer sharci waaye baarlamaanka koonfur galbeed waaba dastuuri ma ahbo sidiisaba dastuuri ma ahan maxaa yeelay madaxweynaha iyo baarlamaanka madaxweynaha la hor dhisay saa darteed baarlamaanka dastuuri ma ahan balse waa la sameyn waayey in dib loo celiyo oo madaxweynaha kalsooni uu warsada baarlamaanka waa la yeeli waaye balse hadda waxaan ugu digayaa iyagoo qodobkii mataqaana jebiyey ee dastuurka koonfur galbeed ee ahayd 2 bilood ka hor in yacni guddiga abaabulka doorashooyinka in la sameeyo way jebiyeen balse waxaan leeyahay murashaxiinta iyo shacabka koonfur galbeed se u wada dhan yihiinbo in yacni cadaadis in lagu saaro baarlamaanka in si degdega ay usoo dhisaan guddiga doorashooyinka kadibna baarlamaanka la mariyo guddigaasi la ansixiyo haddii baarlamaanka aan la marinin guddigaasi waa kheyr sharci isaga naftigiisa yani ma noqon karo guddiga doorasho waayo guddiga doorashada markii la magacaabo waxaa la rabaa in baarlamaanka la horgeeyo baarlamaanka markii la horgeeyo baarlamaanka ansixinayo waa inuu noqdaa guddigaasi guddi ay yani wada ogol yihiin dhammaan musharaxiinta oo dhan haddii yani guddigaasi uu dhinac u janjeero ma noqon karo guddi doorasho ma noqon karo iyadoon baarlamaan la marinin aysan haali isaga noqonin dhammaan dadka musharaxiinta ah guddigaasi waa guddi aan sharci ahayn haddii ay dhacdo ta labaad waxaan leeyahay aadan aan rabaa inaan dib ugu soo noqdo habeen dhabeed waxaa hadlay xasan sheekh madaxweynihii kan ku horeeyey
waxaa yaab ah xasan sheekh kelmadaha uu ku hadlay waxaad moodaa dadka yani afkooda iyo dhagahooda inaysan ismaqlaynin ayaad moodaa maxaa yeelay meelna wuxuu leeyahay yani waa muwaadin waa soo sharixi karaa meelna wuxuu leeyahay aniga ra'yigayga waxaan qabaa inaysan hadda yani waqtigiiseen ha yani waxa yaab ah maangaabnimada u hadlan yani aan la yaabay waxay noqotay yani aniga bareerahayga waxay ila tahay inaysan hadda waqtigan munaasib ahayn taasoo oo ula jeedo taasoo anaan kuu sheegay taasoo oo ula jeedo sida walaalkay uu sheegay ciidamada mataqaana beeleed ee dareesta dowladda wata ninka ugu horeeyay ee shabeelaha hoose qabsada isagoo ahaa ninka ugu horeyso haddaad xasuusatid maqaal aan maalintaas ka qoran jiray lo'da mataqaana haddaad mooday inay tahay kumeeldheer lo'da kumeeldheer maahan maalintii maqaal la dhahay aan soo qoray baydhow news waad la socotaan yani maalintaasu keenay isagaa qabsaday shabeelaha hoose saa darteed xasan wuxuu rabaa isagoo shariif xasan shalay isagaa keenay marka wuxuu rabaa sidii shalay shariif xasan uu u keenay in maantana yani uu shariif xasan ku joojiyo because shariif xasan waa u adeegaa waa isku mataqaanaa xulufo marka saa daraaddeed waxa waaye shabeelaha hoose 8 degmo ee gobolka shabeelaha hoose guddoomiyaashooda ma ahan dad deegaanka u dhashay ama dad rabitaanka dadka deegaanka degan lagu keena ma ahan dhammaantood waxaa lagu soo magacaabaa wareegto warqadaa lagu soo magacaabaa saa darteed ayaa waxa uu u leeyahay xasan sheekh shariif xasan ha joog wuxuu u leeyahay waa intaas qodobka labaadna waxa waaye doorashada lagu saleeyey baydhabo yani juuntii kula hore baydhabo juun 9 juun lagu qabtay shirkii maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka baydhabo lagu qabtay ayaa waxaa lagu ansixiyey in doorashada soo socoto oo inay noqoto laga baxo yani nidaamka hadda 4.5 laga baxo ee loo wareego nidaam cod doorasho ah qaab deegaan ku salaysan marka saa daraaddeed adigu tuulo yani oo ziyaadaha maadan helin waxaa kaa maqan degmooyin badan baa kaa maqan maamulada kale degmooyin bay sii wararsadeen iyo gobollo kale marka waxaa la rabaa in yani minority aad ka noqotid siyaasadda soomaaliya ee soo socota marka waxaan rabaa inaan u sheego ummadda koonfur galbeed waxaan rabaa inaan u sheego bini aadanka wuxuu xur yahay markii ikhtiyaarkiisa loo mataqaana isaga wax ku maamulan karo oo masiirkiisa iyo aayihiisa isaga ka tashan karo mar haddii ikhtiyaarka lagaa qaado mataqaana masiirkaaga iyo maamulkaaga yani lagu meeriyo xur ma ihid marka waxaan leeyahay dib isu xoreyn halisu diyaariyo tan kale waxaan rabaa war annaga hoggaanka aan u baahannahay af buuxaan ku sheegaa annaga hoggaanka aan u baahannahay waxa waaye hoggaan aan lacag jecleen hoggaanka aan u baahannahay waxa waaye hoggaan aan lacag jecleen waxaan rabnaa hoggaan cadaaladda jecel waxaan diidaynaa hoggaan diyaarad saaranoo safar ah kaana ma ogolin waxaan ogolnahay hoggaan ummadda la tashanaya ayaan ogolnahay dhex taagnaanayo meesha uu maamulku ka yahay fadhinayo ayaan u baahannahay waxaan diidaynaa hoggaan dadnimada ay ku yar tahay manhajkiisa laga maamulo meel kale kaasna ma ogolin waxaan ogolnahay hoggaan diidaayo waxa loo sheego oo loo meerinayo diidaayo oo ka shaqaynaya danta iyo maslaxada dadka iyo deegaanka uu mas-uul ka yahay ka shaqaynaya ayaan annaga raalli ka nahay waxaan aga digaa dowladda federaalka murashaxiinta macmalka ay soo wadaan oo dadkoodiiba yani aan ka haysanin kalsoonida waa in mataqaanaa ummadda yani aysan la hor imaanin maxaa yeelay ummadda rabitaankeeda dal iyo dibad waa is haystaa talyaaniga wuxuu dhahaa la voce del popolo la voce del dio yani ummadda rabitaankeeda waa loo wada jeedaa ciday ka qarsan tahay male marka ciddii isku dayda duufaanta soo socota inay is hor istaagto wallahi duufaantaad ku qaadayso su-aasha haddaan ku weydiiyo su-aal kale waan jeclaystay hadalkaaga doctor cali baab waxaanu garanaynaa aan ognahay dowladda federaalka soomaaliyeed madax bay u dirtay kismaayo oo ninka haystaa uu xoog ku haysta weliba eeraboorka laga soo celiyey puntland madaxweynaha dalka soomaaliyeed maamulka meeshaasi ka jira aan ogeyn kama degi karo gobol ka mid ah marka runtaan isu sheegno galmudug la mid weeye hirshabeellena ka daran sidaasi daraaddeed
duraad siyaasi wax qoraad tahay oo wax badan og gobolka shabeellaha hoosena waaba ka soo jeedaa farmaajo wuxuu ka degay meydkii iyo dhaawacyadii oo baydhabo yaal markuu ka degay safar degdega waxaana la sheegay 2 beelood in la heshiisiinayo bal arrintaas sharax gobolka shabeellaha hoose 2 beelood oo degan oo dagaalsan maba jirtaba gobolka shabeellaha hoose beelaha degan waa beelo ku wada degan dhaqan iyo xeer ku degan waaye 2 beelood oo gobolka shabeellaha hoose degan oo colaad ka dhaxayso ma jirto balse wax 2 beelood ee madaxweynaha uu tuuta u gashtay ee uu yiri waan heshiisiinaya waa mashruucii xasan sheekh uu abuuray waaye ma fahamsana laakiin dadka mashruucaasi mashruucii xasan sheekh uu abuuray oo yacni uu ku keenay waaye isaga iyo shariif xasan ay ku soo wada galeen heshiiska oo lagu keenay waa fur galbeed shariif xasan waayo 2 beelood ee la heshiisiinaya waa booryaantii ka hartay salbalaar ee gobolka shabeellaha hoose shalay xoogga ku haysatay ayaa lagaaga dhigayaa yacni beelo kula degan war beel aan tuulo lahayn war tuulada ay leeyihiin ha sheegaan ummaddan waxaa yaab ah in shariif xasan laftigiisa muxuu sameeyey in uu dhaho yacni waan heshiisiinaa dhowr jeer uu isku dayey laakiin aan ka dabaqaylinay oo aan mataqaanaa aan fashilinay waxaa la rabaa beela aan meeshaasi deganeen aan deegaan u ahayn oo la keenay abaartii dabadheer war nin la keenay oo shalay aan soo dhaweeyey miya hadda yacni shaatigayga mataqaana ila qabsan karo ma taasaa yacni cadaalad ah cadaalad darada ummaddan lagu hayaan kuu sheegaa wasiir siraaji allah u naxariisto ee ku soo waxbartay dhibaatadii iyo qaxootinimadii ayaa albaabka madaxtooyada hortiisa waxaa ku dilay ilaaladii hantidhoorka qaranka ilaa iyo hadda maxkamaddii ciidamada waxay xukuntay in yacni la dilo dablihii dilay siraaji dable ceydiid waxaa dhacday farmaajo ilaa iyo hadda waa sanad iyo wax la jiro uu ka beerbeerayo yacni in uu saxiixo taasi waxa waaye cadaalad darada buuggii uu qoray farmaajo ayay jawaab u tahay buuggii uu qoray ayay jawaab u tahay haddaan u soo noqonno safarkan isagaa 2 beelood oo heshiisiinaya degdeg ah haddii la heshiisiinayo xataa awal muxuu ugu safraya madaxweynaha maxaa keenay mansuur markuu baydhabo tegey oo uu khudbadan jeediyey uu yiri ama waa ku dhiman ama ma arkayse guulan isku markaas kadib inuu farmaajo degdeg uu arrintan waa arrin yacni siyaasadaysan oo xeeladaysan waaye maxaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa ummaddaas in loo saldhigo oo la dhaho ummadda yacni wax dagaalama iyo wax colaada ma jiro mansuur miyaa laga baqayaa maadaama haddii la doorto la og yahay ninkan nin military inuu yahay uu soo dhaqaaqi doono oo waxaa laga baqayaa in beelahan kale ee deganaa meesha kuwa hadda macnaha korfuulka macnaha markaan ka nimaano in macnaha isgarabsadaan miyaa laga baqayaa what's wrong maya waxaa laga baqayaa shacabka yacni siyaasaddaasi dadku ma fahamsana shacabka koonfurta oo hadda yacni aad u malaysid in yacni rabiicul arab spring inay dhacday yani hadda waxaa muuqato arab spring ayaa muuqata koonfurta soomaaliya waxaa ka socota maxaa la dhahaa rabiicul carab maxaa waaye deertii koonfurta ay socoto marka saa daraadeed markii markii sprinkiga la arkay yani ummaddan kacdoonkeeda la arkay kacdoonka ummadda markii la arkay ayaa waxaa iyo mataqaana musharaxnimada mukhtaar iyo kacdoonka shacabka markii isqabsatay la arkay ayaa ummadda waaga ku beriday oo mataqaana wixii qalad ah hadda la rabaa in la saxo taasna waa soo dhawaynaynaa in qaladkooda ay gartaan ay saxaan waa soo dhawaynaynaa balse waxaan leenahay war cadaaladda ha shaqaysee siraaji ninkii dilay xukunkiisaan sugaynaa adigu koonfurta soomaaliyaad ka soo jeedaa gaar ahaan gobolka shabeellaha hoose waxaan aaminsanahay maanta sida u hadlaysid haddii reer koonfurka ay duulaan mudug ay qabsadaan iyo puntland oo qori ku qabsadaan waa ka hadli lahayd xaq darro waayaa dhihi lahayd maanta laakiin dadkaasi soo duulay baa gobolkaagi haysta runta marka la sheego beenna maahan warkaasi sidaasi daraaddeed marka hadday sidaasi tahay ma ku qanacsan tahay beel soo duushay oo gobolkaaga qabsatay in lagu dhaho waa lagula heshiisiinaya ha iska deganaato horta waxa waaye rasuulku wuxuu dhahay unsur akhaaka dhaaliman oo madluuman walaalka u gargaar haddii laga gardaran yahay waa la gartay markaas asxaabtu waxay dhaheen haddii uu dhaalim yahay see loogu gargaara wuxuu dhahay celi annaga macnaheeda la dagaalan wey maya walaalkaa celi yani xumaanta iyo dhib ka celi
كعلي ولالك حمانته يعني درجة وسمينا كعلي واي أنا قلت يعني ضد عقيدة يدين لها هاي إن بنا كفاحة يعني ضد كي ضد ظلميان هالي كمان نقول واحد وتاس كلا واحد ليه هاي ما أهن واحد بيش الوجه شيشينو يا آذن بيلا ما أهن فوح كهرتي سلبلار شخصيات بوليبا يعني قبائل ما أهن إلا ده بيل ما أهن وقلت بيل ما أهن فوح هرادي أو بارتي قبل كشف إلى هوسه يديجان يعني دتي ديجانك أيا بتقال إسهسته maahan beele is haysta ma jiro waxay u hareen yani waxay ku hareen waa laba nooc dadka annaga dadkii ewel deganaa guryo kule ee deganaa deegaanada gobolka shabeellaha hoose waa dad ku hoos nool dhaqanka iyo xeerka yaala gobolka ku hoos nool waaye cid wax u dhibaysa male shalayna waynala noolaayeen maantana waynala noolaayeen berrina waynala joogayeen waa dad walaalaan nahay oo gurigood wada degnaa annaga kuwa ma haysano annaga waxaan haysanaa kuwa waraaqaha lagu soo magacaabayo ee deegaanka aan deganeen ee waraaqaha lagu soo magacaabayo shalay yimid shalay markaan leeyahay waa dagaaladii sokeeye kadib ee ku yimid magacii mataqaanaa SS ku yimid oo jabhadaha ku yimid shalay USC ahaa haddana shaati diimeed gashtay haddana shaati mataqaanaa gashtay mataqaanaa dowladeed kuwaas waa kuwa diidanahay ee annaga dadka walaalaheen nala deg oo deegaanka nala degan oo shalay aan soo dhaweynay saan shalay u soo dhaweyna waaye waa soo dhaweynaynaa waa ogolnahay inay nala degnaadaan waana mataqaanaa degnaan wada degnaan doonaa sabab laakiin waxaan diidaynaa لكن waxaan diidaynaa Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu dhahay ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ميزان waxa lagu qaybsaday hadda cadaalad darbe imaanayso walaalaha nala degan mataqaanaa shalay aan soo dhaweynay ee deegaanka nala degan waxaan ogolnahay xuquuqda ay xaqa u leeyihiin inaan siino xuquuqda ay xaqa u leeyihiin inaan siino annagaa diyaar laah weligeen ma dad soo dhaweyn jirnay weligeena dadka marti soori jirnay diyaar baan u nahay xuquuqda ay xaqa u leeyihiin inaan siino balse waxaan diidaynaa gurigaagaan kuu maamulaa jeebkaagana waa kuu masruufaa maya aadan taas waa diiday gurigaagaan kugu maamulaa jeebkaagana waa kuu masruufaa maya gurigayga anaa le jeebkaygana anaa le jeebkayga ma igu masruufaysid gurigaygana ma igu maamulaysid marti edeb la ohow doctor cali baab waa mahadsan tahay ugu dambayntii gunaanadka kugu soo noqon doonaa macallinow su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay puntland maxaad xil uga qaban weydeen iyo galmudug iyo hirshabelle بسم الله الرحمن الرحيم ilan waa joogtaan puntland iyo intee kale Somaliland puntland iyo somaliland hirshabelle iyo ma arkaysa ilan dadkaas oo dhan wasiiradiina way ku jiraan wasiirada dowladda koonfurta soomaaliya oo shariif xasan xildhibaanay ka yihiin adinkuna xagga waa degan tihiin maxaad uga noqon weydeen waxaa la dhahaa may la dhaheeyo hungurigii wiinadu dhuunta tariige mamaha la dhahaa jirta kastay hungurigii wiinadu dhuunta tariige lare ono hunguri meelas oo ma aragna ad hati sheegas hunguri ma nooga jaro ununa nu hunguri ayahay hungurigaasa diidegna marka un kastay laakiin wasiirada dadka deegaanadaas inta way ku jiraan su-aashayda faham laakiin adinkana xagga waa degan tihiin macnaheed xagga maxaa xilal uga qaban weyday sida kuwaasi ay uga hayaan koonfurta may hel anku gobod waynay una weligaano laha aragiiba dadka hadhowaay jarni kastay dadkii una hadhowaayani oo wadanka hadejini oo deegaankani lahaa iyo wasiir ente un wadankaas wasiirna maku fadaan maana fadadoon may intu kula un wadanka kii kanu kheyraad iyo deegaanshayna nin dhaafo fadaan su-aasha marka aan ku weydiinayo waxay tahay wasiirada marka kala bar loo qaybiyo deegaanka dowladda koonfurta soomaaliyeed ee shariif xasanka hadda macnihii sii leecaya uu hogaaminayo kala bar waa dad aan deegaanka u dhalan dadkii deegaanka u dhashay mutacalimiintii brofesoradii dal iyo dibadna xil kama hayaan waxbana kama ahan marka su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay adinka raalli ma ka tihiin deegaankiini dad aanan u dhalanin oo meel kale ka yimaada inay madax ka noqdaan idinkana deegaanadooda markaa joogtaan
macnii aadan xilka haynin guntii gabagabadii tan ku jirnaa tan 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 ada isu'aali markaan ku jawaabo may ataaha Sharif Hassan wala usaato ma aragnay meelka roogu oo ma aragnay hatan helka hayinka doorado ilaa dad kale handaad ku raysadayo may waxa wadankan meel kale ka darofade ununa ma ogolini taas tan kale oo ninkin sheego may la areeyay Soomaalida may kama mahadaas reewin gurbaan lanki hamiin geehado hamiin meelka weeriyo la fade oo wadankaanu hadii dad la sheentaan dad meel kale ku koyle wasiirka nagada iyo baarlamaanka nagada bahata diidagne Mukhtaar Roobo kaas oo ma aragnay doorashadana anfadahayna Mukhtaar Roobo hadii qobsadoon walaas dhan meel ku bahayan marka waxaan u fahmaynaa Mukhtaar Roobo waxa loo diidan yahay ma arkaysa anaanufkaasi meesha lagu haystaa dhamaanaya waa fahmay waxaan rabaa inaan u gudbo mas'uulkaasi laakiin samataraan rabaa hal mar inaan su'aal weydiiyo samatarow ma arkaysa xawaaladaha koonfurta Soomaaliyeed iyo sida hadda nootaayo oo kale waxyaabahan meelaha laga xayeysiinayo dadka koonfurta Soomaaliyeed iskama leh asal ahaan waxa iska leh dad gobolada dhexe ka yimaaday Sharif Hassan Sheikh Aadan ayaana warqad dikreeta ugu magacaabayo siiyay waana meeshii dadka ay ka nuugi lahaayeen sidaas daraadeed adinku waxaad ka mid tihiin dadkii dhaqaalaha dalka macnaheedu lagu tashan lahaa horumarka dalka macnaheedu wax ka geysan lahaa haday xawaalad tahay hadii ma arkaysa company waxay doontaba haato maxaa idin kaga gudboon ma arkaysa hadii isbedelkan macnaheedu uu yimaado macnaheedu xawaaladaha iyo shirkadaha waaweyn ee ka dhisan koonfurta Soomaaliyeed laakiin dadka macnaheedu deegaanka u dhashay aan macnaheedu iskale oo dadka deegaanka u dhashay aan lahayn dad kale iskale idinku ma ku tala jirtaan in xawaalada idinku aad leedihiin sida dahabshiil oo kala ah ama hormuud oo kala ah koonfurta Soomaaliyeed aad macnaheedu ka hirgelisaan gacantana aad ku qabataan والله هرتا حدان أصول لابت سؤال وان كجوابه سؤال مهم واي سؤال أد ولالكي ويديسي سؤال أد ولالكي ويديسي أو أهات تذكرير كونفور قلبات ما حي حلال وقبن وايين قبلان كلا أو إيجا قبلان كلا ما حي حلال لوجسيا كونفور قلبات جذيت متى صدق أنا واك جوابه عنده متى سنة وحن أركها كلي dawladda waddanka haysato maamusho hadday xaq samaynayso dadka xaqooda ay simayso way ka noqon lahaayeen tusaale ahaan tajribo yar la sameeyaa jirtay waagii maxaakiimta waxaa dhacday in dad reer koonfur galbeed ah mudug inay ka noqdaan walaayada mudug guddoomiyaal looga dhiga wayna dhacday midaas waxay ku tusinaysaa marka inay dawladdan hadda jirto in dhinaca daacadnimada iyo marka loo fiiriyo kuwa maxaakiimta jireen iyo shabaabka xitaa markii si loo fiiriyo meelaha qaar ay shabaabka ay ugu daacadsan yihiin oo ma aragtay xilka sida loo qaybsanayo markaad fiirisid waay marka kale midda kale haddaan u soo laabto Sheikh Mukhtaar Roobowna waxyaabaha oo laga baqaayo waxa waaye hadda mar dhaweeda waxaa dhacday qof oo beesh reer weyne ah in oo xamar laga gubay markii la gubayna dawlad ka hadashay ma jirin nin Sacuudiyaana Istanbul lagu dilay safaaradda Istanbul oo wariye ahaa suxufi ahaa dawladda war-saxaafadeed ay ka soo saartay markaas meeshaas waxay ku tusinay dawlad oo dalkeeda waxa ka dhacaya aysan ka hadlaynin oo safaaradda oo turki ugu taala Sacuudiga muwaadin Sacuudi lagu dilayna war-saxaafadeed ay ku soo saarayso Sacuudiga ay kula safanayso marka midaas ayaa waxay ku tusinaysaa dawladda heerka ay kaasiisan tahay siyaasadeeda dalka ba inaysan wax ka ahayn oo dawlad iska hadasho ay tahay oo iska malaawaal ah midda kale oo xawaalada haddaan soo laabta
xawaaladaha ani ma qabi kolley ma aragtay qof walba tartan wuu jiraa tartanka inuu iska furnaado oo ma aragtay soomaali dhan ay tartanku u sinaadaan qofka reer koonfur galbeedna uu xawaalad ka furan karo loo ogola qasab ay tahay in loogu ogolaado goboladaas kale qofka goboladaas kale ku noolna ma aragtay goboladaas kale nabad kuma joogaan iyagoo cashuur dhiibaya darada ugu dambeysay waa lagu dilay ninkii cashuurta dhiibayay laakiin kuwaan si sharaf leh u joogaan xawaaladaha koonfurta soomaaliya nin la hadlayna male taas waxaan ugu jawaabi lahaa annaga waxaa fiican in aan ka roonaano mar walba annaga inaan noqonin ku dayanin walaalkaa hadduu xumaaday xumaanta looguma daydo waxaa fiican in oo adiga wanaagaagi mar walba ma aragtay aad wadataa oo wanaagga aad ku sugnaataa laakiin haddii aad dhahdid walaalkii ninkaas goboladaas ka soo jeeda wuu xumaaday sidaasuu ila dhaqmay anin sidaas si lamid ahaa ula dhaqmaa haddii aad ugu jawaabtid marka waxay noqonee qori ku taag adigeenna waa la xumaatay marka annaga haddaan nahay reer koonfur galbeed waxaanu lagu bartay iyo wanaagga nagu bartay dad soo dhaweyska nagu bartay dadka sida wanaagga aan u soorno intaas inaan wax ka bedelno lagama yaabo kulley ani waxaan dhihi lahaa dadka reer koonfur galbeed inay ku adkaystaan mas-uulkaas inaa u gudbisid isla su-aashii haddaan weydiinaya macnihii gobolada dadkaani ma arkaysa mas-uuliyiinta ka ah ee koonfurta soomaaliya waxaan arkaynaa dadka deegaanadaas ka soo jeeda ma arkaysa intay mas-uuliyiin ka yihiin dhankaasna way degan yihiin ganacsina way ka leeyihiin marka raalli ma ka tihi wallaahi horaan waxaan ka eri waxa waaye dadkan xilalka deegaanku aanan u dhalan oo xilalku ka haya koonfur galbeed waa rag albaabo lagu furtay ma ahan dad deegaanka dadkii oo anagu nagu dhex noolaa reeraha anagu deegaanadu qaar ka mid ah ama xoolahoodu dhulkayaga daaqaan xataa ma ahan waa dad albaabo lagu furanaya mithaal shariifka xilliguu xasan sheekh uu joogay si uu xasan sheekh uu u raalligeliyo nin xasan sheekh ku reer ah ayuu xil siiyey reerka xasan sheekh uu koonfur galbeed tuulo iska dhaafe tuulo waxaa ka yar makaato xataa makaato kama degana koonfur galbeed xataa hal waab xataa kama degana reerkiisu saasay tahay xil buu ka siiyey ra-iisul wasaarihii joogay tabtaasi oo kale hadda nin baa yimid ninkii yimid yani hadba qofka jooga buu ugu barnaamij yar ugu saxiixdo warqad markuu rabo inuu saxiix uu ra-iisul wasaare u tago waxaa leeyahay de adigu waxba nooma qabatid maxaan ku siiyaa xildhibaan sheego wasiir sheego waxaa rabtid baan ku siinayaa warqadaas ii saxiix waa nin u samaysan inuu ku raadiyo adduunyadiisoo dhan corruption xitaa fiiri adduunka corruption waxaa la yidhaahdaa nin marka $100 musuq maasuq waxaa la yidhahdaa nin markaa dhahdid $100 maamul 90 hawshii loo diray ku sameeyo 10 qarsada waxaa la yidhahdaa musuq maasuq laakiin nin $100 markaa u dhiibtid boqolkiiba cuna musuq maasuq maaha waa tuug ee shariif xasan musuq maasuqista ma ahani waa tuug ee dalka hadduusan noo dhaafinna yacni si sharaf daran baan u dhaafinaynaa marka intaan wixii ka dambeeya wasiir ataaka ayaan rabaa median si toos ugu jiran raalli noqo wasiir ataaka su-aasha aan ku weydiinayo waxay tahay haddii koonfurta soomaaliyeed dadka degan oo gobollada kale ka yimaaday xil macnihi ay ka hayaan adinkana xagga waa degantihiin waa deganahay laakiin xilkayga canshuuraan ku baxshaa dadkayga subaxii ay soo kacaan cirbaday gadaan saabunay gadaan waxgarashay gadaan wax lagu adeegtay gadaan subax munishibida lacagta ka qaadato waxay bixinayaan canshuurta waddankaas ay ku leeyihiin laakiin ani nin ila noola canshuur ila bixin jiray ma jiro meel canshuur lagu bixinayana ma arkin laakiin ayaga subaxii waa loo hor istaagaa waana la weydiistaa waxaa loo istaagaa waddada haddii la rabo waa la gubaa laamiyeriga bambiiladan inta la guba ayaa lagu shidaa
waa dadkayga waay iga soo qaxay u qaxay bini aadamnimo dalnimo dadnimo tuuga aan ahayn waa la toogtaa waxaan ahaynaa lagu sheegtaa waxaanan weligooda noqon ayaa lagu sheegaa tuuga ma aha dad sharaf leh oo muruqooda maalayaa waa okay bini aadamka markii markaasaas loo adeegsado oo canshuurtiina laga qaato subaxii habeenkana gabdhahooda la kubsado ani bini aadan soo ma ihi waxaan ahay ma ii sheegi kartaa bini aadamnimada meeshaan kaga jiro ani meeshaan kaga jiro bini aadamnimada ma ii sheegi kartaa adaa haddaad tiraahda raggayga jidka lagu xoogayaa anaa waddadayda saas la samaynayaa anaa kan ii ah war adi intee ka tirsan tahay meeshaa ka tirsan tahay ma ii sheegi kartaa intee ka gelaya bini aadamnimada bini aadamnimada hagee ka geli kartaa ii sheeg hasan sheekh maxaa iga gala hasan sheekh ani anaa isku filan anaa sheekh mukhtaar hawowna wato anaa sheekh mukhtaar hawowna doortay anaana waxayga wato anaana dadkayga jecel waay daddadow aan u sheeganaya saasaa liigu sameeyey intaa liigu sameeyey waddadeeda la xiray waa u sheeganaysaa waa waxaad iskaga tili weysa adig goorma wax noqotay goorta wax ii noqonaysa ii sheeg 58 waxay ahayd dowladdii ugu horreysay noqoto 58 dowladdii ugu horreysay ay noqoto waa laakiin kan anoo ila dhashay kan ka xigan anoo ila dhashay kan anoo ila dhashay adna ay ila dhalatay dadka aan hadda ka sheeganayn bini aadan sideedana waaye may dadaa aamayana ununa dad ma aaman maaha dadnimada inta xagee goormay ka barteen kulaad ma taqaanaa baydhabo ku yaallo oo shariif xasan dadku ku xareeyey iskoolkii uu xiray oo bini aadamnimadii uu xiray oo isbitaalkii uu xiray waay bini aadamnimadii inta isweydiistaan uga hadli weysaan war calankan ma jiro adaa ma jirin hadii calankaan jirin maxaa calankaan ka sheeganaya wax ma ku weydiin karaa calankaan ma jiro haddii calankaan uu jiro gabadhaada mala xoogi laheen adna dadnimo waa lagu aqoonsan lahaa laakiin calankaa lagu diidan yahay eelay dhalay eeyow kalba ah goormaa isu ogolaanaysaa adi goormaa noqonaysaa kan iska fuji afar hidig lay wadii 5 hidig lay wadii hal hidig lay wadii isku dhaaf isku reebo korto waxaa iska celin kartid ma ka dacwoonaysa adduunyada yaa iga dacwoonay ilaahay ma yaqaanaan be haddii ilaahay yaqaanaan uma hadli lahayn wamaa dalamnaakum walaakin kaanuu anfusakum yadlumuun maxaa dhacay waay shariif xasan persona waay adii ha doorati malaaga waa banaanka laka garaacay war adii laka tumi war adii etoobiyaan lakii dari war adii laki hoogi war adii warkasta lakii soobi why you don't feel this why other wal garasho ma lihidiya waana shireedin aragaas waa shireedin aragaas in shak meel kale tamale hamar hamuunta maklihiidi hamuunka saas ad fartu inta ku godi hamuun la ere buul eelayna milihiidi kulbay dhawaay milihiidi hamar dhagax tur meel iska dili unu haaji axmedey aw shay dogon inta fadhi kasteeda laakiin reedka fadhi ma kasab unu hasbi hayni la ilaha illa allah muhammad rasulullah yon wa ilaha SYL in fasabra korta SYL Chris waay ma intuu tagta ada lanko amar shaal raw
محمد حسن لكن كوري أسكرني نجدي يا ولي نجدي